dhammaan khiyaarta kala duwan ee joogta daafaha dunida waad ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka barnaamijkan caawa ayaynu ku casuman tahay ifraax cudkoon barnaamijka caawa ay ku casuman tahay waxa weeye women in educational leadership oo ah haweenka iyo sida ay ugu jiraan ama ay tahay inay uga qayb qaataan hogaaminta waxbarashada ifraax waxyaabaha aan kusoo xulanay waxa weeye inay tahay macalimad oo haddii aynu taariikhda ifraax ka hadalno in yaroo kooban ifraax waxay ku nooshahay waddanka maraykanka waxa ayna tahay macalimad dugsi sare oo dhigta maadada sayniska waxa weeye ifraax sidoo kale waa barbaariso u ah hooyo hal ilmo ah oo wiil ah waxay ifraax tahay dadka aaminsan in ay bini aadanku ku horumaraan aqoonta waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda haweenka iyo sidoo kale in ay dadka mujtamaca ay bartaan aqoonta maadaama ay aaminsan tahay inay tahay aqoontu midda ay horumarka keenaysa ifraax caawa sessionakan waxay yeelan doontaa haddii ilaahay idmo 40 daqiiqo oo waqtiga aan ugu talagalnay ah way ka badsan kartaa oo way ku darsan kartaa wayna ka yareyn kartaa sessionkeeda kadibna waxaa inoo bilaaban doonaa su'aalihii iyo jawaabihii ay isdhaafsan lahaayeen aniga oo moderatorka ah ifraax iyo kasoo qaybgalayaasha waxaan rajaynayaa caawa inay noo noqoto habeen kale oo jawi qurux badan oo aynu wax kala faa'iidno iminka si qurux badan waxaan jeclahay inaan usoo dhaweeyo ifraax waa kaaga mahad celinayaa anagoo ku kala duwan xagga time zoneka in aad ku timi on time thank you very much kuna soo dhawo platformka dawaana ku ogahay qurba joog talba ingiriis kaa maqnaan maayo Thank you very much. Aad baan kugu mahadnaqayaa Noel iyo Baraarug Library iyo dadka badan oo meesha jooga oo na dhageysanayo waqtigoodana siiyo maanta. I'm really happy wallahi inaan in la wada joogo. Waad arkaysaan af Ingiriiska xogaa ku tuuranaya waayo sidaa sheegtay aniga waan ahay qurba joog in badan baan ku noolaa af Soomaaligana iyo aniga xogaa hadda waayahan dhow baan soo saaxiibnay af Ingiriiska weligeed u badnaa marka horey baan inkugu sheegayaaba iga raali noqdo mar qaarkood inaan erey af Ingiriis meeshaas aan ku tuurto waan isku dayaa Soomaaliga af Ingiriiska inaan ku wado sidaa sheegtay macalimad baan ahay maalin kastana markaan aniga ardadayga wax baraayo oo adiga howlahayga adduunka aan kala wado af Ingiriis baan ku hadlaa marka qofkaba wuxuu yahay waxaad u baratid soo maaha nature versus nurture wax environmentkaada waxay ku influence weyn bay kugu leedahay marka environmentkayga waxay keentay inaan Soomaali iyo af Soomaali iyo dad Soomaali aan waqti dheer aan ismoognahay marka hore baan kugu sheegaya marka mar kale aan rabaa inaan in mahadnaqo thank you so much adigu socodsinteen meesha aad rabtid inaad maqashid waxaan ka hadlayo marka thank you it's a big deal for me inuu qof like meel igu casuumo oo lagu dhaha fikradaada ifraax nala dhiibo aad ka fikraysid misaad what kind of thoughts you have on this subject marka hogaaminta haweenka darasaadka waxbarashada women leadership in educational institutions marka aniga waxbarashaan ku jiraa marna waan dhiganaya in badan baan dhiganaya hadda mar dhow 2019 waxaan dhameeyay master's degree-gaygaan dhameeyay insha Allah waan rajaynayaa inaan sii wado PhD inaan maxaa la yiraahdaa sii wado buugayga inaan qorto marka su'aal ii weydiiyay ifraax buugga goormaad qoraysaa maba bilaabinbo laakiin arintan oo adiga topican hogaaminta haweenka darasaadka waxbarashada oo women leadership in education wax weyn bay ila tahay oo wax aad aan u xiiseynayo inaan more aan wax ka sii barto aan cilmi baaris badan aan ku suubiyo aan ogaado sida kulay loo xalin lahaa saan u aragna haween badan adiga oo madax ka ah jaamacadaha iyo iskuulaha iyo adiga bulshada meelaha badan oo looga baahan yahay ma aha kaliya waxbarashada but also politics iyo adiga business waxay ahaataba laakiin waxaan u maleynayaa waxbarashada inay aad muhiim u tahay
nolosha bilowgeedana inay tahay wax kasta aad ku fahmaysid aad ku bilaabaysid xataa adduunkan sidaad u fahantid siday wax u shaqeeyaan dhaqanka meeshaad ku noosha siday tahay wax kasta waxay ka bilaabataa waxbarashada marka hogaaminta haweenka darasaadka waxbarashada wax arrin weyn bay ila tahay maadaama nolosha ay ka bilaabato waxbarasho oo ay tahay bilowga nolosha waa arrin muhiim ah in lagu arko haween badan darasaadka waxbarashada oo ayagoo madax ka ah annagoo ay dadna arkayaan ay haween ay ahaadaan rag ahaadaan ee positionkaas lagu arkaan ay caadana noo noqoto normal ay noo noqoto inay haweenka madax ka ahaan karaan jaamacadaha iyo iskuulada marka su-aashan in badan ayaan isweydiiyey markaan presentationkan usoo fakaray maadaama haweenaan ahay I know one simple answer waan garanayaa waxa looga waayay right waxaa la isweydiiyey maxay ugu maqan yihiin oo maxaa sabab u ah inaynan haween badan iskuulada mise jaamacadaha madax ka ahayn so aniga markaan isweydiiyey su-aashaas hal eray baan kusoo koobay jawaabteeda laakiinse hal eray hal qof maybe laguma fahansiin karo markaa dadka damacaysid inaad wax fahansiisid sheekada inaad hore ka bilaawdid waayo meel fog inaad ka bilaawdid waayo xoogaa aad soo wadid waayo life experience-kayga aniga haween ahaan baa ii sharaxayso iyo waxaan akhrisada ii sharaxayso waayo haween badan ay ugu jirin jaamacadaha mise iskuulada even meesha aan ku noolahay oo loo arko waddan horumarsan oo first world country loo arko oo one of the most richest and powerful country adduunka ugu xoog weyn dhanka militariga markaa la fiiriyo dhanka dhaqaalaha markaa la fiiriyo sidaas ay tahana weli kuma aragno haween badan oo madax ka ah jaamacadaha Mareykan mise even iskuulada Mareykan aniga waxaan dhigaa dugsi sare so high school oo si kale loo dhahay secondary school even secondary school yaasho in badan haween madax kama even Mareykanka wadamo badan obviously adduunka jiro laakiin maadaama aniga labadan meel aan ku noolahay midna aan physically aan ku noolahay midna maxaa la yiraahdaa wadnahayga ku noolyahay labadaas leebaan isku fiiriyay adiga dhanka Mareykanka aan ku noolahay iyo dhanka Soomaaliya wadankayga ah oo maxaa yiraahdaa dadka ay ku nool yihiin wadnahayga iyo niyadeyda markaas ay la joogtana so su'aashaan markaan in badan isweydiiyey waxaan isiri sidaan ooga hadli karaa marka waxaan rabaa presentationkayga inaan ila wadaago aan isku tijaabiyo sidaan u share gareyn karo sidaan ii sheegay zoom xogaa baa iigu dambeysay share screen-ka sidaan u nacay waan bilmaamay si loo isticmaalo waxaan balaayada iskaba ilow I hope inaad aragtiin women leadership in educational institutions waxaana aad oola dhacay markaan arkay horta sawirkan baaba aad oola dhacabo ama aragtiin sawirkan markaan arkana waxaan wallahi way tilmaamaysaa why looga arkin haween badan adiga dhanka waxbarashada madaxdooda oo adiga why leadershipka ay ugu yireen haweenka adiga waxbarasho kaliya maba ahabo in badan industryga adiga institutionka wadan kasta adiga ku taalo oo bulshada muhiim u ah oo maamula bulshada siday u noolaanayaan why haween badan looga arkin this is a symbol for female right it's a symbol for female xarigaasa ku xiran way ordaysaa way dadaalaysaa laakiinse nimankan oo waxba ku xirneen baa hadee ka orod badan laga yaabaa aqoontii kartidii iyo everything inay haysta laakiin waxbaa gadaal u ridaaya taasna maxay tahay marka so waxaan isiri sidaan ooga hadli karaa how can I talk about women leadership anigoo ka hadlin hadee patriarchy anigoo ka hadlin sexism oo adiga kala saraynta jinsiga anigoo ka hadlin sidaan ooga hadli karaa why oo looga arkin haween badan dhanka adiga madaxda qayb kastaba bulshada waxaana dareemaa mar qaarkood markaan ka hadlo arrimahan dadkeena Soomaalida badan inaan xogaa la nacsan yahay ereygan feminismka inaan la nacsan yahay laakiin haddii erey kastaba la isticmaalo kala saraynta haddaan xataa dhahna kala saraynta jinsiga kala saraynta rag iyo haweenka oo bulshadeena dhaqankiisa ay ku salaysan tahay anagoo ka hadlin miyaan u heli karnaa jawaab su'aashan miyaana solution adiga xal miyaan u heli karnaa arrintan anagoo wax ka taabanin wuxuu dhaqanka ku salaysan yahay dhaqanka inuu ku salaysan yahay jinsiga inuu maxaa la yiraahdaa kala sareeyo sidaas loo fahansan yahay inay ragga haweenka ka sareeyaan anagoo wax ka taaban miyaan ka hadli karnaa wallahi ma ka hadli karin ereygaas xataa sexismka
markaan programkan aan diyaarinayo wiilkayga aan la hadlayo oo wuxuu qolku igu imaaday wuxuu yiri hooyo waxa subinaysaa waxaan prepare gareynayaa presentation ku saabsan the reason for the lack of women leadership in education maxaa ay tahay sababta haween badan loogu arkin madaxda adiga school leadership iyo madaxda meel kastaba bulshada markaasuu yiri what's the reason maxay tahay sababta markaas hal eray aan ku soo koobay hadda because maadaama haween aan ahay aan in badan life experience aan u haysto arrintan wax badan aan ka akhrisado waxaan dhahay sexism markaasuu yiri wiilkayga 13 sano jira wuxuu yiri I know that taas waan ogahay ma wax kala jiro haban dahay marka taas baa la sii faafin la sii maxaa la unpacking lagu suubin karaa oo la sii daba raaci karaa sexismka meeshuu ka bilaabmay muxuu yahay maxaa wali adiga dhaqanka uu ugu dhagan yahay maxaa ku kalifaya dadka bini'aadanka inay maxaa la yiraahdaa diidan yihiin social change markasta ma aha dagaal oo like conflict maxaa la yiraahdaa rag iyo dumar ka dhaxeeyo marmar qaarkood waxay tahay dadka siday u fahansan yihiin nolosha waxay tahay siday u fahansan yihiin nolosha micnaheeda markaasna loo kala saarayo qof kastaba roolkiisa mise shaqadiisa oo nolosha aan danteena guud aan ku wada gaarayno bani'aadan markaan nahay marka problem state marka aan u fiiriyay aniga dhinaca Mareykankan ka fiiriyay waayo meeshaas aan ku noolahay meeshaana maxaa la yiraahdaa waxa ka socda mise racism ha ahaato mise xenophobia oo adiga dhanka maxaa la yiraahdaa madownimada dhanka muslimnimada immigrantnimada ay saameyn noloshayda ku leedahay dhanka kalena haweennimada ay waxa laga fahansan yahay haweenka iyo ragga qiimahooda iyo bulshada wax awood ay ku leeyihiin laga fahansan yahay waxay saameyn ay ku leedahay noloshayda kulay waa waxa hadda meeshaan ka socdo aan deganahay show waxaan ka bilaabay problem statement waxaan ka bilaabay Mareykanka kulay despite the fact that many women in the US are attaining higher education or higher education waxaan ka wadaa adig post secondary bachelor masters iyo PhD there are still not as many women leaders in educational institutions than there are men marka wali despite the fact inkastoo haweenka Mareykanka aan joogno wax badan ay maxaa la yiraahdaa ay barteen bachelor degree ay qaateen in badan ay qaateen master's degree in badan ay qaateen PhD weli lagama helo haween badan oo madax ka ah dhanka adiga waxbarashada iskuulaha secondaryga iyo post secondary weli lagama arko taasna maxay tahay marka su'aasha like problem state-ka horteeda waxa waaye way jiraan haween u qalmo min la adiga haysto educationkii mise adiga kartida haysto leadership kartida haysto laakiinse weli lama arko maxaana loo arkin marka su'aal adiga aad ka jawaabaysid waxa la fiirinaya what's the real reason what's the roots of the problem so the roots of the problem maxay yihiin maxaa hortaagan okay so what are the obstacles standing in the women's way what are the obstacles waana u malayn karaa dad badan runaantii inay isweydiiyeen arrintan marka waxaan rabay first the obstacles intaan la fiirin waxaan rabaa inaan fiiriyo educational achievements by gender in the United States waxaan ka helay censuska 34.6% of all men or women are over the age of 25 living in the United States held a 4-year college degree marka boqolkiiba adiga 35% boqolkiiba 35 nin oo ka weyn da'da 25 Mareykanka ku nool 4-year college degree way haystaan boqolkiiba isla meeshii 35.3% of all women over the age of 25 na bachelor degree na maxaa la yiraahdaa way haystaan oo Mareykanka ku nool 10.5% of adult women waxay haystaan master's degree but no higher degree or master's degree ugu dambayso wayna ka badan yihiin nimanka 8.7% of adult men master's degree haysto marka loo kala fiiriyo labadan master's degree levelka haweenka more master's degree qaatay oo marka loo fiiriyo and then kana waa 1 million 1.7 million niman miss 1.3 women held professional degrees so professional degrees waxa loo fiirinaya macalinimada loo fiirinaya professional degree also waxay tahay lawyer nimada professional degree kalena engineering professional degree kalena waa medicine marka professional degrees kana ragga u badan and then kan ugu dambeeyana waxa waaye 2.5 million doctorate qaatay and then 8.5 million oo haween oo doctorate qaatay ragga taasna PhD ga u badan laakiin so
from history marka la fiiriyo adiga sida from history historically in the United States haweenka cadaanka waxay bulshada soo dhaxgaleen markaan soo dhaxgaleen ay ka qayb qaadan karaan waxyaalaha bulshada noloshooda micno ku leh oo influence ku leh sida votingka cod bixinta waxay ku yeesheen markay ahayd 1920 marka 1920 ilaa hadda marka loo fiiriyo 2020 100 years kullay waxay u egta progress inay meesha ka imaaday inay maxaa la yiraahdaa haween badan ay wax barteen inay maxaa la yiraahdaa a lot of them in badan ay masters battery bachelors battery PhD battery at least aqoonti ay la tartami karaan ragga ayna aadna looga badanin haddii laga badiyana okay sidaas ay tahay marka waxbarashadii liskuma liitay maxaa lisku liitaa tanna waxaan ka helay educational achievement by gender Somalia there was a small report aan ka helay meel tanna waxay ka hadlaysaa adig goobaba yar ma u maleynayo Soomaaliya dhan run ahaantii inay matalayso dhibaatada kale aan filayo kolley Soomaaliya ka jirtay marka waxa waaye just dib u dhistaadi wadanka iyo dib u dhisti institutional especially educational institutionka dib u dhistiisa inay wadanka markuu reconstruction uu subinayo oo ay ku dhex jirto inay really difficult ay tahay in institutionadii hore jiray mise xoogaa marka horena wax yar jiray in si toos mise dhaqso loo dhiso marka I don't think standardization oo waxbarashada dhan ay isku mid tahay same things adig gobol kasta mise deegaan kasta laga barto wallahi run ahaantii uma maleynayo standardization wali inay ka jirto qofkii iga og wuu ii saxi karaa hadhow markaan is wareysano laakiinse waxaan ogahay hadda right now standardization badan inay ka jirin ayna u badan tahay mostly wiilasha inay fursad u leeyihiin waxbarashada mise nimanka inay u leeyihiin waxbarashada waxaana kala ogaadana education markay noqoto waxaan ku kala duwanahay I guess Mareykanka iyo Soomaalida more female teachers baan haysanaa Mareykanka Soomaaliyada waxaan ogaaday inay more male teachers haysado taasna waxaan dareemayaa inay ay tahay wax obstacle oo haweenka mise gabdhaha hor taagan inay qofkii ay galaaska wax u dhigi lahaa uu ahayn qof ayagoo kale oo haween ah marka ay iska dhex arki karin marka this small data waxaan ka helay kolley inay rag u badan yihiin inay macallimiintana rag u badan yihiin taasna waan u soo laaban karnaa gadaal u soo laaban karaa but tii hore markaan u laabto oo adiga waxbarashada Mareykanka maadaama haweenka iyo ragga ay labada wax bartaan aad wax loo barto maxaa ka hortaagan male leadership maxaa ka hortaagan female leadership maxaana dhahayo inkastoo haweenka ay wax barteen oo bachelor masters PhD ay qaadan karaan wali school kama talin karaan oo wali jaamacad kama talin karaan oo madax uma ahaan karaan maxaa yeelay taas marka waxa waaye culture of male leadership based on patriarchy wax yar hadaan ka taabo waa just adiga ideology aaminsan ragga just haweenka inay ka sareeyaan ay ka awood badan yihiin adiga marka loo fiiriyo physical strength maybe taas run waaye but also mental and emotional strength dhinac kastaba maxaa la yiraahdaa inay ragga more dominant ay ka yihiin haweenka by patriarchy ayna istaahilaan ma aha kaliya more dominant inay yihiin ayna istaahilaan leadership inay ahaadaan okay so culture of male leadership waxay assume garaysaa waxay just ogolaataa oo aragtaa nin markay aragto inay leader aragto nin leader and female leader markay aragtana inay su'aal ku jirto right so assumes male leadership waxa way u aqoonsataa ninka inuu leader noqon karo questions female leadership na waxa way inay su'aal ku jirto haweenka inuu ay noqon karto leader right taasna waxay ku xiran tahay like traditional gender roles on a child rearing carruur korinta adiga carruur ay ku xiran tahay loo daaya haweenka shaqada iyo leadershipna la leeyahay loogu talagalay nimanka marka taasna waxa ma aha kaliya waxa aan Soomaali kaliya aan gooni no ah it's not only like Soomaalida inay waxaan fahansan to be honest patriarchy adduun weynaha ka jiraan in badan aniga obviously I'm a woman you know waxyaalahan qaarkood marka haweenka xoogaa hoos loo dhigo waan ka damqanayaa laakiin markaad cilmi baaris badan aad suubisid waxaad fahmaysaa like the roots of these issues like maxaa keenay in dadka nolosha sidaanay ka fahansan yihiin maxaa keenay marka aan fiiriyo waxaa keenana
waxa keena markaan fiiriyana waxa waaye traditional gender roles oo adiga shaqada kala qaybsiga markii before I guess dadka magaalo ay ku noolaayeen oo different shaqooyin ay jirin dadka sidee ay ku noolaayeen maxay suubi jiraan anaka dhaqankeena Soomaaliya marka la fiiriyo a lot of us aan ahaan jirnay mise aan nahay maxaa la yiraahdaa people of nomads oo xoolo dhaqato oo nimankana ay geel raacayaan haweenkana gurigeyga iyo ilmaha ay la joogayaan kind of like those traditional gender roles ideology and noloshan ku noolaan jirnay aan maxaa la yiraahdaa aan magaaladan also aan la imaanay kulay sida aniga aan u fahmay right inkastoo magaalada aan la imaanay magaalada different maxaa la yiraahdaa shaqooyin iyo different problems iyo different problems kulay different solutions bay u baahiin laakiin the same mentality aan maxaa la yiraahdaa ku noolaan before baan haddana maxaa la yiraahdaa we still have that same kind of mentality. Also child rearing marqarkood waxaan maqlaa my next slide waxay Somali women are already working marqarkood waxaan maqlaa waxa la rabaa haweenka Soomaaliyeed in like gurigooda laga soo bixiyo oo ay banaanka ka shaqeeyaan taasna I believe is faulty. The reason I'm saying it's faulty is because Somali women are already working. Markas waa arka Somali women oo shaqeynayo. Somali women oo maxaa la yiraahdaa nasteexa meel isaga fadhido oo raaxo maxaa la yiraahdaa meel isaga fadhido kulay aniga ma arkin waxa arka always shaqa invisible labor shaqada kala qaybsata sama invisible labor guriga laga shaqeynayo markasta taa shaqo waayo ay guriga laga shaqeynayo ilmaha la korinayo maxaa la yiraahdaa all of those things like shaqo waayo waxay u baahan tahay xoog bay u baahan tahay maskax bay u baahan tahay energy bay u baahan tahay shaqo waayo laakiin shaqo maxaa la yiraahdaa la og yahay inay haweenka suubiyaan laakiin lagu qiimeynin like I want to say lagu qiimeynin oo maxaa la yiraahdaa like darajo ay lagu siinin waaye vulnerable employment kalena haweenka Soomaaliyeed suubiyaan waxa waaye like outside of the home oo banaanka maybe wax lagu gadaayo qollay wadankan waa so everybody la socdo burburka marka dhacay a lot of Somali moms danta waxay ku qasabtay inay maxaa la yiraahdaa ilmahooda ay biisho inay shaqeyso shaqo kasta qaban karto inay qabato markaas those kind of jobs waa jobs of vulnerable position maxaa la yiraahdaa haweenka gelinayo inkastoo maxaa la yiraahdaa because it's underappreciated work right because of the type of work shaqada la suubinaya ay tahay shaqo maxaa la yiraahdaa u baahan kind of how do I put this shaqo u baahan that you be outside okay shaqo u baahan maxaa la yiraahdaa a lot of manual labor shaqo u baahan marka maxaa la yiraahdaa let's say shaqada aad you cook something banaanka la aadaysid and qof baad ka gadaysaa saacad kastaad gadaysaa so shaqana maxaa la yiraahdaa bulshadana darajo ka lehen oo like maxaa la yiraahdaa really value ka lehen inkastoo value ay leedahay a lot of the time the shaqada haweenka suubiyaan value way tahay oo waa laga faa'iida laakiin looma arko inay valuable tahay because waxaa lagu daraa shaqo haween women's work right that is the home rearing and maxaa la yiraahdaa the outside working or shaaha la gadaya mise wixii maxaa la yiraahdaa dharka la gadaya anyways those are considered women's work or kind of underappreciated work. And then on the other side, waxaan arkaa also violence remains high for Somali women, generally speaking, right? Dhacdooyin badan adiga dhanka maxaa la yiraahdaa sexual violence kan arkaa dhacdooyin badan oo marka laga hadlo oo really bulshada ay ka qayliso laakiin bulshada really aan isweydiinin maxay ku imaadeen arrimahan maxay ku tahay banaanka hadaa socotid xataa inaad nabadgelyo ku socon karin oo uncomfortable laga dhigayo oo public space ka xataa haweenka iyo ragga isla wadaagi karin maxaa keenay marka maxaa keenay taasina isweydiino waayo before violence iyo sexual violence ay dhicin dadka waxay u maleynayaan a lot of times sexual violence inay tahay waxa like the biggest problemna way tahay laakiinse waxa ka horeeyay waxyaalo badan oo that made it possible sexual violence what came before waxay ahayd dehumanization oo iyo qiimeyn la'aanta haweenka ka hor imaaday sexual violence iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalaha kale
Okay, so women may face barriers if there's a perceived conflict between their professional role and their gender. That very deeply patriarchal culture defines Somali women's life's role primarily as wives and mothers. Words in parentheses are mine. So the words in the parentheses are mine. Marka waxaa jiro waxa hor istaagayo leadershipka inay haweenka madax meel ka noqdaan their gendered life role oo la leeyahay dhaqan ahaan bulshada inay dalbanayso inay haweenka ahaadaan wives and mothers haddaad ka baxdidna haweennimadaadaas question ku jirto mise life rolekaada question ku jiro haddaa lagu fahmay inaad ka baxsan tahay waxa lagu talagalay there's like a identity maybe conflict between waxa adiga aad iska dareensantahay noloshaada aad subin kartid iyo waxa bulshada ay kaa doonayso mise bulshada maxaa la yiraahdaa inaybo markaad xeerihii adiga xeere haddaan ku tilmaamo haddee inaa liila dagaalan ka yaabaya xeere haddaan ku tilmaamo laakiin positionkay lagu talagalay haddaad ka baxdid inaad bulshada dhib kula kulantid waa laga yaabaa right so markaan aan aragno deeply patriarchal cultural or define garaynayso Somali women life rolekooda inay tahay wives and mothers markaan aan fiirino the expectation ka bulshada ay leedahay bulshada waxay dalbanaysaa sideen markaasna how does this gender role expectation impact access to education and employment maxay bulshada waxay dalbanayso markaas maxay sidee saameyn ay ku noogu leedahay haween markaan nahay markaan doonayno inaan wax barano iyo markaan doonayno inaan shaqo raadis markaan aan damcayno inaan shaqaysano what kind of impact ay noogu leedahay haddaan dalbanayno hadday bulshada shay naga dalbanayso anagana wax kale aan doonayno waxaa laga yaabaa access inay saameyn weyn noogu leedahay waxbarashada inaanba heli karinbo in baaba nalaga hor istaago waxbarashada maadaama ay bulshada dalbanayso inaan ahaano xaas iyo hooyo waxaa laga yaabaa inaan la dhahabo maxaad ku falaysaa waxbarasho maxaadba ka doonaysaa waxaaba u dambaynaysaaba hooyo iyo xaas baaba u dambaynaysaa maxaadba كرادينيسا وحبرشة so there's an obstacle right there meeshas ba waxba ka hor istaaganbo waxbarashada intaad ba gaarinbo leadership ka aad gaarinbo waxbarasho u baahanta skills ba u baahanta skills ka intaad ba helinbo waxa ku hor taagan hadaad ba u dambayso hooyo xaas maxaa ka raadinaysaa education hay education ka waad heshay markaasna employment ka marka la gaaro hooyo waad fiican tahay hooyo wax barato baad tahay ma sha Allah alxamdulillah ilmahaada nimankana wax bari kartaa that's great maxaa shaqo ka raadinaysaa maxaad shaqada ka doonaysaa ilmahaada shaqada ka wadaysaa maxaa la yiraahdaa gurigaada ka wadaysaa why maxaa shaqada u raadinaysaa markaan haysano gender role expectation oo adiga bulshada markay dalbanayso ragana saan bay suubiyaan haweenkana saan bay suubiyaan taas waxay dalbanayso bulshada mise waxa adiga social custom caado mise dhaqan noo ah waxay impact saameyn ku leedahay education access sida loo heli lahaa waxbarashada education markaa heshidna sida aad u heli lahayd shaqadii okay taada su'aasha labaad aan isweydiino waxay dhahay how does this contribute to low self-esteem lack of belief in self and lack of high expectation on girls and women to perform in education and employment so markay bulshada ay ka sugayso inaad shaqooyin adiga specific qabatid because of your gender jinsigaada awgiisa markaasna sidee taasna ku saameyn sidee saameyn ku leedahay adiga self esteem kaada how does this affect self esteem ka waxa adiga iska aaminsan tahay kalsoonida aad iska aaminsan tahay lack of belief in self sidee taasna saameyn ay ku leedahay inaad aaminsan tahay inaad waxaan aad capable ah ku tahay oo markaad yar tahay ilaa adiga maybe waxbarasho aad soo dagaaltantay wax baad baratay aad shaqo raadinaysid waad dadaashay laakiin waxa markasta aad maqlaysaa bulshada aad ka maqlaysaa haween baad tahay shaqada guriga waxa ku dambaysa guriga ilmaha ku dambayso taasna maxay saameyn ku leedahay sida adiga kalsoonidaada iyo lack of high expectation adiga tan hore waa adiga saad iska fahansantahay haween haddaad tahay tan dambana waxaa waay lack of high expectation on girls and women to perform haddii aan fahansanahay xaas baa iyo hooyo u dambaynaysaa haddaad macallin tahay sideed maxaad ka sugaysaa gabdhaha galaaskaada ku jiro mise maxaad ka sugaysaa haweenka aad la shaqaysid mise maxaa la yiraahdaa aad leader u tahay oo hoos maxaa la yiraahdaa adiga aad la shaqaysid basically I hope that was clear. I don't know inaan saan maxaa la yiraahdaa si fiican u explain gareeyo waxaan rabaa inaan isku xiro bulshada maxaa la yiraahdaa beliefkeeda bulshada customka iyo dhaqankeeda iyo siday beliefkaasi dhaqankaas ay maxaa la yiraahdaa qof
personally u impact gareynayso qofka ay maxalliya kalsooni la'aan laga yaabo inay ku rido kalsooni la'aanta shakhsiga self kalsooni la'aanta laga yaabaana kalsooni la'aan inay macallimiinta mise xataa dadka ay la shaqaynayaan maxaa la yiraahdaa haweenka inay kalsooni ay ku qabin gabadha la shaqaynayso maadaama dhaqanku uu aaminsan yahay kolley guri iyo waxa ku dambeeya hooyo iyo xaas kaliya maxaa iskuulka ka haysaa maxaa ka haysaa shaqadan way waxaad wrong place ma haday bulshada ka fahansan tahay dadkana bulshada ay ku wada nool yihiin Soomaaliya dadka kaligood like maxaa la yiri meel waxa ku arkay no man is an island macnaheedu waxa dad kale la nool yihiin dadka dhaqan baan wadaadnaa dhaqanka saameyn bay nolosheena ku leedahay waxay influence gareysaa actionkeena talaabada nolosheena ka qaadanayna hamiga aan leenahay xataa bay influence gareysaa haday bulshada laga fahansan tahay in shaqa aan leenahay haddaan damacno wax kale waxa laga yaabaa qofka xataa shaki inuu iskala waxaan miyaan suubin karaaba waxa laga yaabaa haween qaarkood inay isdhahaan ma suubin kari anigoo naag ah maxaan sidaas baan why would I even do that maxaan isku dayayaa waxaas ba anigoo naag ah laga yaabaa qofka even laftigiisa inayba fahantabo ay iska dhaadhiciso maadaama bulshada already mar hore aad in badan kasoo shaqaysay guriga bulshada outside inaad haween tahay haween maadaama tahay shaqadaadana waa x and y wax kala ma jiraan okay markaan u fakana who is a leader leader what are the deep seated assumptions of what and who a leader looks like who is the leader markaan u fakana maxaa la yiraahdaa like hoggaan bulsho hoggaamin karo markaan u fakarno a lot of times waxaan aragnaa nin baan aragnaa bulshadeena mar hore naga soo dhaadhicisay nin equals hoggaan leader right markaan damacnan something different waxa la dhihi tiiba lagu soo laaban waxa la dhihi you are behaving outside of waxa normal no you are behaving outside waxa ku dhaqmaysaa wax like caado no ahayn wax maxaa la yiraahdaa like no ahayn caado oo caadadan waxa waaye like wax like habit like social behavior ka habit waxay ku imaadaa through reinforcement waxa marka wax lagu soo celiyo waxa dareemaysaa run inay tahay ay ma isweydiinayso cilmi baaris badan laga yaabaa inaad u suubinin waxaad iska accept gareyn inay taas sax tahay because dadka kula jooga saas u dhaqmanayo dadka maxaa la yiraahdaa markasta saas baad maqlaysaa waxaad dareemaysaa horta adiga inaad qaldan tahabo right so what are the deep seated assumptions waxaan really aan ka aaminsanahay waxa leader qofka ah leader marka anaga Soomaali runta aan u fiirino leader waxaan u aragnaa nin maxaa la yiraahdaa waxa tusaale ka ah maxaa la yiraahdaa like elders keena adiga markaan u fakarno xeerka maxaa la yiraahdaa garta soo maxaa la garsooro noqon karo maxaa la yiraahdaa hawlaha bulshada ka socota yaa lagala hadli karaa yaa go'aan gaari karo every time like in our culture especially waxa nin even culture ka aan ku noolahay xataa is we assume male leadership waxaan u malaynaa haddaan leader aragno automatically maskaxdeena waxaa laga yaabaa inuu nin ku soo dhaco okay so what kind of expectations do we have for girls and boys then as they are being raised up because the deep seated assumptions waxaan really aaminsanahay just iskama imaanin waa wax markasta bulshadeena reinforcement ay nasiinayso markasta reinforcements baan helaynaa oo inay arrintan sax tahay right bulshada nala socodsiinaysa oo markasta na correct garaynayso na saxayso haddaan ka baxano waxa socially acceptable ah okay so what kind of expectation ka aan maxaan sidaan u korinaynaa anyway sidaan u korinaynaa wiilasha gabdhaha what kind of cultural expectations and beliefs about ability waxa way like waxa aad suubin kartid so markaan ku noqono leader haween miyay noqon kartaa waxa way hoos inaan ka bilaawno yaraanta wiilasha gabdhaha markaan korinayno maxaan ka dhaadhicinaa oo maxaan u sheegnaa maxay suubin karaan maxay mustaqbalkooda hami geli karo maxay tahay right maxay bulshadooda ka damacsan tahay ka dalbanaysaa maxay ayagana maxaan ku soo barbaaraynaa ku soo korinaynaa inay awoodi karaan waayo a lot of things or leadership like lagu tilmaamo ma aha wax maxaa la yiraahdaa really ragga gooni ay u leeyihiin waa wax bulshada ay tiri rag baa leh right bulshada is a social construct waa wax anaga aan maxaa la yiraahdaa kulli aan bulsho ahaan aan value aan ka dhigna value right so if it's a value then value hadday qiimo leedahay ay raggana ay maxaa la yiraahdaa maybe culturally ay saan u dhaqmaan
then taasna waxaan ka dhigaynaa leader equals male because male wuxuu suubiyaa sign XYZ. Okay, waxyaalaha qaarkood kalena aan hadday wax ka taabtay breakdown of formal institutions. Breakdown of formal institutions waxa also aan ku fikiray bulshada like maxay ku dhisan tahay haddii burbur dhacay oo maxaa la yiraahdaa ay formal institutionka burbureen then bulshada maxay ku dhisan tahay kolley wax bay markasta ku dhisan tahay either formal institutions bay ku dhisan tahay or informal institutions such as relationships adiga clan waxay ahaataba wax bay ku dhisan tahay marka maxay hadda ku dhisan tahay Soomaalida marka fiiriyo waxaan aaminsan kolley waxay ku dhisan tahay waxaan ka akhrisaday kolley ay qabiil ku dhisan tahay in ragnimo inay ku dhisan tahay ninimo inay ku dhisan tahay so breakdown of formal institutions markuu jiro oo dadka adiga u kala xaq dhowri lahaa wixii shaqeynay kolley there's a replacement waxa loo baahan yahay mar haday wax hadii ku dhisan tahay adiga bulshada hadaa rabna inaan wax ka bedelno waxaan u baahanaa like replacement u baahana maxaa bedeli karo maxaa replace gareyn karo waxa hadda ay bulshada ku dhisan tahay waana ognahay waxay sidee ku noqotay bulshada sidee hadda ay ugu dhisna the way ay hadda ugu dhisan tahay sidee ku imaadeen waan ognahay inay burbur ku imaado burbur ka horna way ogtahay Soomaaliya inaan nahay oo maxaa la yiraahdaa before magaalo aan degneen aan maxaa la yiraahdaa xoolo dhaqato aan nahayn ninka lagu amaanayo lagu value gareynayo inuu hadee dadka difaaci karo geel raaci karo geel maxaa la yiraahdaa soo dhici karo waxyaalaha aan maxaa la yiraahdaa aan ka fahansaneen leadership waxay tahay ragnimo iyo leadership waxay noqdaan one and the same thing bay noqdaan right laakiin noloshu way isbedelshaa oo many of us had the gel maraayno many of us magaalo baan ku noolnahay many of us shaqooyin kala duwan baan suubinaynaa marka maadaama life ku isbedelmay gender roles ka xataa inay isbedelmaan waa sax dadkana loo qiimeeyo wixii ay suubinayaan because shaqada gurigana ma yaro shaqada gurigana way adag tahay marka inaa xataana loo hoos dhigin islaam baa tahay guriga la ka shaqaysaa guriga shaqadiisa waa adag isku tijaabiyo also maxaa stereotype threat wax yar baan ka taabtay stereotype threat waa markaad adiga kolley bulshadaada aad ka maqashid waxa maxaa la yiraahdaa aad awoodid mise waxaad suubin kartid aad mar kasta lagaa dhaadhiciyo aad bilowdid inaad aamintid you start believing waxay bulshada kaa dhaadhicisa hadduu hami hore kugu jiray laga yaaba hamigaas inuu just kaa damo oo aad maxaa la yiraahdaa dareentid waxaan maxaa la yiraahdaa iguma haboono oo ma suubin kari and you don't know why hadda aad u aaminsantay inaad subin karin stereotype threat waxaa la dhahaa just because of reinforcement bulshada kaa dhaadhicisa kolley because of reinforcement inaad waxaan aad subin karin excuse me for one moment okay sorry thank you very much okay all right markay haweenkan ay shaqeynayaan okay so laga yaabaa alxamdulillah waa soo dadaashay in badan baa la damcay hamigaada inaa maxaa la yiraahdaa lagaa bedelo waxbarashadiina lagaa reebo waa la damcay laakiin you prevailed waad wax baratay shaqadii waa la damcay inaa lagaa reebo shaqada waa bilowday haya when women are work so marka hore waxaa obstacles markii shaqada la gaarana waxaa jira more challenges marka shaqada bilowdana more scrutinized more challenge women leaders in badan baa maxaa la yiraahdaa hadalka iyo go'aamaha ay gaaraan la challenge gareeya more la challenge gareeya inta la challenge gareyn lahayn maxaa la yiraahdaa ninka wuxuu yiri mise male leader ereyada uu dhahaa mise go'aamaha uu gaaro loo qiranayo inay sax yihiin haday haween isla hadalkaasna ka imaadana la dhaho may waxaas waxa kama jiraan ama aad qaldan tahay right marka maxaa la yiraahdaa laga yaabaa shaqada markaad already shaqada aad gaartay discrimination oo adiga jinsi ahaan lagu subiyo family life demands wali marka aad shaqeynaysid xataa oo shaqadii guriga adiga completely 100% ay ku saaran tahay oo maxaa la yiraahdaa conflict oo meesha ka jiro right prejudice and stereotyping waxa way just wixii adiga bulshada ay tiri maxaa la yiraahdaa because of your gender saan ma suubin kartid markasta aad damacdid ba inaad idea la imaadid mise inaad wax maxaa la yiraahdaa aad shaqada aad ka qabatid lagu dhaho no haween baa tahay waxaas waxba kama ogid oo lagu maxaa la yiraahdaa ideagaada la damiyo and then advancement to the top intaad maxaa la yiraahdaa shaqeynaysid aad leadership position aad helinbo aad hal meel aad joogtid bayga xataa lagu siinayo aad lagu kordhin
waxyaalaha qaarkood oo womenka ay maxaa la yiraahdaa controli karaan oo wax aan ka qaban karno waxa way lack of education, training and experiences. Inkastoo bulshada run ahaantii taasna maxaa la yiraahdaa qayb ay kamid ay ka qaadan karto lack of education, because we have to look at maxaa la yiraahdaa like sociological imagination markaan isticmaalno. Haddaan dhahno maxaa la yiraahdaa hal gabar baa school aadi weyday, maybe waxaan dhihi karnaa abay maxaa school ku aadi weyday mogta. Laakiin haddaan aragno haween badan oo school aadi karin, we have to look at the society inaan bulshada fiirino waayo maxaa ka jira bulshada. maxaa ka jira bulshada oo diidaysa mise u ogolaanaynin mise hor istaagan inay gabdho badan school aadaan, right? So we have to look at things maxaa la yiraahdaa using like a sociological imagination baa la dhahaa oo fiirinayso bulshada maxaa ka jiro, sidaas markaas loo fiiriyo inaa loo baahan yahay social awareness, in loo baahan yahay institutional inaa la dhiso, in loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa laws iyo waxyaalaha qaarkood. Laakiin hadday waxbarashada available tahay, what can women control for inay wax bartaan, inay training ay helaan, inay experience maxaa la yiraahdaa ay raadiyaan. waxyaalahaas maxaa la yiraahdaa aniga hadda waxa soo barto training kasta maxaa la yiraahdaa aan u maleynay leadership inuu yahay, aan isku dayo maxaa la yiraahdaa inaan aado experience, inaan meel kale maxaa la yiraahdaa aan conference aado, aan maybe conference kan ka hadlo, aan dadka conference ka oo more experience aniga igale aan dhageysto. waxyaalahaas kale waxa laga yaabaa controlkay gacantayda inay ku jiraan. maxaa gacantayda ku jirin? waxaa gacantayda ku jirin discrimination. taas maxaa la yiraahdaa discrimination oo maxaa la yiraahdaa dhanka jinsiga aan controli karin. I can't control in a woman ahay, right? Stereotyping waxa maxaa la yiraahdaa bulshada ay ka fahansan tahay haweenka awoodooda ma controli kari. Negative preconceptions ma controli kari. haddaan maxaa la yiraahdaa leader ahay aan u maleynayo wax sax maxaa la yiraahdaa aan go'aansaday aan si sax aan u hogaaminayo organizationkayga, laakiin bulshada ay negative conceptions adiga qalad ay ka fahansan yihiin awoodda haweenka waxaas ma controlo kariin. taasna waxaa wax bulshada ay tahay inay bedelaan. So discrimination, stereotype, negative preconception. hadda maxaa la yiraahdaa there's things aan dhihi kara xataa haddaan wax yaraada dhanka Soomaalida aan ka taabto, like the discrimination and sexual harassment in the workplace. Sexual harassment in the workplace waxaan mar badan haween badan adiga Soomaali jooga Soomaali ka shaqeynaya ka maqlaa loomaba arkaba inayba dhib tahabo. aniga markaan shaqo aadayo waxaan rabaa shaqadayda inaan qabsado, ma rabi inaan shukaansi uma aadeen, ma rabi like maxaa la yiraahdaa waxaas kale inaan leela soo gaaro, ma rabi waxaan rabaa shaqadayda inaan qabto, waxaan rabaa gurigayga inaan aado nabad aan ku aado, you know. laakiinse markay caade ay tahay gabadha markay meeshay joogtoba lala hadlo la damca in la shukaansado markay caade noo tahay ma u arkaysid qalad. ma u arkaysid qalad gabadhaas la shaqaynaysin inaad shukaansatid. way ayadana ay rabin in lala hadlo, ay rabin maxaa la yiraahdaa because qofka waxaad ka dhigaysaa uncomfortable. anigana in badan waxaan maqlaa caadi iska dhig, noo farax caadi iska dhig, waxaan big deal ma aha. but qofka markuu comfortable ay dareemayna shaqadeeda oo mar kastaba maxaa la yiraahdaa lagu dayaayo, it becomes a problem. waddankan hadda aan ku noolahay it's a law, sharci bay noqotay sexual harassment. nimanka wayba ka cabsadaan sexual harassment in maxaa la yiraahdaa lagu accuse gareeyo, way ka cabsanayaan because shaqaa lagu waayaa, waxay ku helaan real consequences, right? waxaan dareemayaa marka waddankeena inkastoo hadda burbur maxaa la yiraahdaa u dhacay reconstruction lagu jiro, institutiono badan ay jirin oo dadka kale ilaalin lahayd oo xuquuqdooda dhowri lahayd, inay hadday jirin maxaa la yiraahdaa sexual harassment maxaa la yiraahdaa rules, haddayba jiraan rules and regulation, inay jirin real consequences, like wax run ku dhacayo qofka uu ku weynayo shaqadiisa ku weynayo sumcadiisa ku weynayo ma jiraan. marka haddayba jirin waxay tahay inay tahay allowed, okay inay tahay waxba haddayba waxba kugu dhacayninbo qofka bini aadamka oo qof wanaagsan ahaan maybe weli wixii uu suubinayo qofka bini aadamka hadduu wanaagsan haddii kale waxa hadday waddanka caade like adiga dhaqanka ay caade ka tahay umaba arkayo wax qaldan inuu yahay, right? umaba arkayo wax qaldan inuu yahay because it's part of the culture, it's part of the norm. normkana waxa way bulshada constant reinforcement waxay kugu dhahdo waxan waa okay, waxan waa normal, more baad aragtaa, way hablo badan ay ku dhacdaa, niman badan baa maxaa la yiraahdaa waxba shaqadooda kuma waayaan, waxba sumcad kuma waayaan, maadaama ay saas tahay waa normal, waa wax normal oo dhaqan ah. marka inuu qof dhahaa oo in badan social awareness laga sheego oo la dhaho like you're making people uncomfortable, shaqadaad ku dhibaystaa qofka shaqadiisa, qof shaqadeeda imaada inay shaqaysay rabtaa ma rabto maxaa la yiraahdaa waxyaalahan kale. haddana not only ma rabta sharci waaye haddaad ku dhaqantidna tana kaaga imaanaysa
laga yaabaa meeshaas inuu iska bedel imaado. Anyways, it starts at home. waxay ku bilaabataa guriga. waxbarashada anyways all of it waxbarasho wax kasaan barano bilowga run ahaantii gurigaan ku baranaa. Right? cadaaladda gurigaan ku baranaa. Socialization waxa haweenka loogu talagalay waxa ragga loogu talagalay all of these things gurigaan ku baranaa. Right? So it starts at home. awoodda ina gabdhaheena yaryarka laga qaadayna la dhihin haween baa taa guri leewa u dambayn doonta nin iyo anigu aad baa u maqli jiray nin iyo xaas baa maxal dhihi jiray ilmaha u dambayn doonta to the point wayba ku nacsiinba ninka iyo ilmahaba because aniga hadda ilmo waa leeyahay alxamdulillah waan jeclahay laakiin mana xumo moogta inaad reer yeelato ma xumo inaad guursatid waa maxal qayb nolosha ka mid ah laakiin qayb nolosha ka mid ah iyo noloshaada dhan way kala duwan yihiin right so wax noloshaada ka mid tahay waxna noloshaada dhan baa laga dhigayaa hadii noloshayda intaan kaliya ma aha waxaan ahay qof wax kala suubin karo waxa kalena ma xumo waxaan arkaa a lot of times waxa kala aad kartidaada iyo mis aqoontaada awoodaada aad rabtid haween markaa inaad u isticmaashid waad u dagaaltamaysaa tanna waxa waaye tan waa lagu talagalay waad suubin kartaa right so socialization a lot of things maxaa la yiraahdaa waxa dhaqan noo ah anyways waxay ku imaatay socialization you get constant reinforcement hadda socialization ay ku imaado marka waan bedelin karnaa dhaqanka gurigeena ku bilaabata formal education dhanka waxbarashadana waxaa loo baahan yahay women leaders must be present in the schools at high levels marka aniga wadankan ku nool a lot of women teachers waan haysanaa laakiin a lot of women principals ma haysano okay a lot of women superintendent ma haysano hadda 14,000 school districts American ku yaalo 14,000 school districts guys so 14,000 waxa way superintendents somehow 14,000 superintendents guys 2,000 kaliya waa haweenka so that's like about 14% right boqolkiiba 14 marka jaamacadahana ka sii yarbo right a lot of times the school waxa dhaco it's very interesting madam a lot of women teachers ay jiraan inay maxaa la yiraahdaa women principals ay jiraan waxaad u malayn lahayd madam women teachers badan ay jiraan inay naturally more women principals aad heli lahayd why a lot of qualified people baad haysataa right laakiin ninka maybe a lot of male teacher ka waxay helaan haweenka waxay experience gareen waxa la dhahaa glass ceiling waxa waaye saad ugu jirto shaqadaada waxaad gaaraysaa meel aad ka hormari karin oo maxaa la yiraahdaa position dheeraad oo maxaa la yiraahdaa more responsibilities and more pay aad ku helaynin maxaa la yiraahdaa baad gaaraysaa nimankana oo ku jiro shaqooyinka kale Mareykan loo arko inay yihiin women work or women friendly or female friendly work sida macalinimada iyo nursingka nimanka waxay helaan waxa la dhaho glass escalator waxa waaye just escalator ka soo garanaysa marka aad waa jiraan oo iska soconaysa soo maaha so when men are few in like a female dominated industries waxay helaan maxaa la yiraahdaa a lot of promotions leadership positions badan ay helaan opportunity bay u tahay because waxa u hiilinayso bulshada waxay jeceshahay bis bulshada waxay aaminsan tahay leadership inuu yahay nin marka ninka female dominated industry ku jiro waxa la siinayaa promotion badan uu ku noqdo principal adiga 5 years ka bacdi 10 years ka bacdi principal after that maxaa la yiraahdaa superintendent mise bushinma kala haweenkana sidaas maxaa la yiraahdaa ma helaan marka so women leaders must be present in the school at high levels right so qofka maxaa la yiraahdaa qofta gabadha ay isu aragto aniga tomorrow principal baan noqon kara waayo my principal Mrs. Hampton baa la dhahaa Mrs. Hampton baa principal baan noqon karaa bari right laakiin haddaad is arkin meelaad aad ka muuqneen ma dareemi kartid maxaa la yiraahdaa inaad like ka qayb gali kartid because qof adiga ku eeg oo haween ah maybe qof madow ah maybe qof muslima meesha kama muuqdo marka waxay maskaxda our brain marka soo information bay organize gareynaysaa information ka maxaa la organize gareynaysaa marka maskaxda waxay ku dhihi meeshaas meel kaaga ma banaano because dad adigoo kale ma joogaan right so we need to have more women leaders at high levels principals superintendents etc representation is needed I think in badan waad aragteen arka you can't be what you can't see waad ahaan kartaa laakiin way adag tahay you know what I mean eragan like I like it because waxay ka hadlaysaa representation ka ina loo baahay in la arko haween maxaa la yiraahdaa ku jiro adi meelo madax ka ah mise iskuulaha meesha ahaataba sida gabadha yarta ay soo aragto qof ayadoo kala ah laakiin you can't be what you can't see waxaa rabaa inaa u bedela it's hard to be what you can't see way adag tahay waxay u adag tahay you have to do so much work dagaal baad ku jirtaa
all the time dagaal baad ku jirtaa marka hore waxbarashada inaad maxaa la yiraahdaa aad heshid baad dagaal ku jirtaa marka inaad shaqada heshid baad dagaal ku jirtaa marka inaad positionka maxaa la yiraahdaa aad promotion heshid oo more higher position aad gaartid baad dagaal ku jirtaa so way adag tahay right lakin it's not impossible representation lakin waa loo baahan inaad iska dhex arki kartid positionka maxaa la yiraahdaa adi position kastaba bulshada inaad iska dhex arki kartid waa muhiim women also waxaan u baahana mentors baan u baahana dad anagoo kala ah oo maxaa la yiraahdaa aniga run ahaantii if it's a male mentor if a female mentor aniga ifraxaan dhib ima aha mid kabo maxaa la yiraahdaa okay baan la ah laakiin waxaan ogaa qofka bini aadanka a lot of time wuxuu jecel yahay inuu la hadlo mise advice ka qaato qof maxaa la yiraahdaa oo ayada mise asagoo kale so that means nimanka a lot of times nimanka advice ka qaataan haweenkana a lot of times haween kale advice ka qaataan because waxaan haysanaa similar experience aan haysanaa aniga haddaan maxaa la yiraahdaa haween ahay aan ogahay dhibaato badan inaan waxbarashada iyo shaqada iyo everything aan la soo maray waxaan dareemi karaa haween kalo inay ila fahmayso waxaas lakin I don't believe nin inuu ila fahmayo waxaas because genderkiisa laguma discriminate gareynayo okay so qof kalo genderka lagu discriminate gareynayo baa ila fahmi karta waxaas right lakin dadka mentorka haysto maxaa la yiraahdaa they are better prepared for promotions waa qof maxaa la yiraahdaa adiga mentorkaada waa qof kaa horeeyo waa qof maxaa la yiraahdaa shaqada already heer ka gaaray waa qof basically wadada ku tusi karo aad u mari lahayd saad u gaartid meesha aad doonaysid okay so how social change anyways waxyaalaha badan aan ka hadlayno waxay u baahan tahay social change right how and when do societies change right waxa hada nasiib darro in badan change happens slowly change ka inuu adiga in yar oo maxaa la yiraahdaa u dhaco right is habeen maalin kuma bedelmo aniga markasta waxaan u fakaraa may sometimes people waxay soo biyaan new year resolution waxay dhihi every day waxaan exercise gareyni markaas laga yaabaa week ka bacdi inay wixiiba joojiyaan way adag tahay inaad habit isku bedeshid habitkaada dabeecadaada mise caadadaada markaad bedelaysid waxay u baahan tahay waqti dheer bay u baahan tahay waxay u baahan tahay samar badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay markasta even haddaad maxaa la yiraahdaa wixii aad ku noqotid inaad dib isku soo celisid oo damacdid caadada newga inaad establish garaysid marka waxay u baahan tahay constant work u baahan tahay marka aniga waxaan u fakaraa aniga shakhsi ahaan hadday ugu adag tahay inaan caado bedelo because individual person baan ah imagine bulsho dhan caadadeeda bedelaysa way adag tahay waqti badan ay qaadanaysaana marka change happens slowly change happens incrementally lakin maanta wixii aan subinayno waxay maxaa la yiraahdaa saameyn ku leedahay bari yesterday action shala waxa dhacana waxaan ku explain gareynaynaa waxa maanta aan ku aragno so we can use like yesterday we can use the past to explain the present waxa maanta bulshada mise adiga adduunweynaha ka jiro historyga loo fiiriyaa waxa hore u dhacaba maanta maxaa la yiraahdaa explain gareynayo waxa jiro right maanta waxaan beerno oo waxaan maxaa la yiraahdaa aan subinana bari bay saameyn ku leedahay so the past the present the future all of them way isku xiran yihiin marka su'aasha waxa waaye what kind of seeds can we plant today maxaan beeri karnaa today maanta maxaan beeri karnaa oo like maxaa la yiraahdaa saan bari ugu baxsano anagoo og isbedelka inuu waqti dheer qaato oo maxaa la yiraahdaa u baahan yahay dadaal iyo shaqo badan okay diversity waxaan ku soo koobaya aqliga ka maqan walaasha ayay ku jirtaa right diversity markaad a lot of different voices maxaa la yiraahdaa decision making table ka imaadaan bulshada dad badan baa obviously haween iyo rag bay ka kooban yihiin sama aha haddaa bulshada qayb ka mid oo dhan laga reebo problem solving key whatever solution lala imaado qof kasta ma anfacayso because qof kasta codkiisa lama helin right so aqliga ka maqan walaasha ayay ku jirtaa what that means is it's necessary waan u baahannahay everybody inuu maxaa la yiraahdaa contribute gareeyo haweenkii rag inay isla shaqeeyaan oo bulshooyinka dhibka bulshooyinkeena waxa ku jiro oo maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka ku jira sidaan xal u helno xal kasta waxaa loo baahan yahay all of those multiple perspective waxaa loo baahan yahay fikradaha kala duwan fikradaha ragga iyo fikradaha haweenka saan solution buux oo helno oo maxaa la yiraahdaa really waxba ka dhiman aniga waxaan aaminsan waxba ka dhiman anyways anything oo kaliya maybe rag kaliya la imaadaan mise haweeney kaliya la imaadaan because no man remember no woman and no man is an island kaligeen ma noona waa isla noonnahay marka inaan isla wadaagno waaye inaan isla qaybsano maxaa la yiraahdaa problem solvingka inaan isla qaybsano waaye bulshadana shaqo kasta inaan isla qaybsano waaye that's it intaas le waaye waan ku tahay baan u malaynayaa no way waxaan dhihi karnaa waa nagu bargoysaan ku dhihi karnaa
waayo markaad tiri wax walba waa in la isla wadaago meel fiicanaan isla marayna hadda waxaan arkaa inay soo gashay wasiiradii hore haweenka Aniise Xaaji Muumin I wish to see her. absolutely waa wasiirada waxa waaye xilli dambe ay noo imaatay laakiin way ka qayb qaadan doontaa insha Allah waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay wasiirad ku soo dhawow ibraaxana inoo joogta una malayn maayo labadiina inaa isbarasho u baahan tihiin ibraax aada u mahadsan tahay qodobada ugu muhiimsan oo aan ka helay waxaa ka mid ah shalay toole inay maanta go'aaminayso maanta waxa la sameeyaana inay biri go'aaminayso markaan taariikhda dhigayana waxay dhahaan in history repeats itself oo dee taariikhda waxaa inoo ku sugan inaynu wax ka barano oo aynu wuxuu lahaa maxayday xaaji aadan afqalo taariikhdu waynoo misbaax maanka caawiye ayadoo malaguraya yaqiin marar ku gaadhaya makaankaaga waa inaad taqaan meelba waxa yaala marka dee gurigaaga hadda saan u arko inaan shelfiska kaa dameeya buugaag u saaran yihiin taasoo loo baahan yahay gurigaageena inaad u taqaanid iminka waxay noqonaysaa markaa su-aalihii inaan isdhaafsano iyo discussionadii not only su'aalo dadku comments bay bixin karaan oo ay faalooyin ay bixin karaan iyo aragtiyadooda waxaan dhihi karaa waaga beriye bilicsan arooriyo baxsan maanta qoran macnay waxaana siisay hintiskii ah inaad gabadha ku socon karto so marka ugu horeysa waxaan sameynayaa wasiiraddan waxaan ka qaadayaa anmuud kadibna su'aal haynu geli doonaa wasiire anmuud samee iska qaad muudka soo dhawo wasiirin hello wasiirad Aniisa soo dhawow may maqashaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوال مي مقشان ها حبيبتي سو dhawow wasiirad جماعتي وايد السلام ما شاء الله إقرأ لي هذا ميتين كلام كجيران كصوتا هاي وكفرح سنة إن إذا كلا قيب قاطع الشركة كان وأنا رنتي موضوع عاد مهم أو لو باهن هاي إن وحن كلام ما نقيا محمد بري أو رنتي يلسوا سعودية إن برنامج كان مانت الصعداء وأنا وح لو باهن هاي إن رجع دمر بإن لسكوي ماذا lana falanqeeyo caqabadaha jira ee keenaya in gabdhaheena Soomaaliyeed aysan hogaankii ka qayb qaadan karin ama siyaasadii halkii lagu gaarayay go'aamada kala duwan ee ummadda saameynaya aysan ka qayb qaadan karin maadaama ay iyagu isla la og yahayba inay ka qayb qaataan xaqii dhaqaalihii xaqii horumarintii ubadka horumarintii bulshada oo siyaabo kala duwan ay ummadii ugu shaqeeyaan oo hooyooyin ay yihiin oo walaalo ay yihiin oo ummadii daryeelayaan haddana aad yara moodo in aan loo ogolayn inay ka qayb qaataan miiskii lasoo wada fariisan lahaa taasuna ayan ahayn mid haweenka laftigooda ay kasoo horjeedaan ama haweenka lala tashto ama soo halgamo kale hooyooyinkeenii oo kale ama hooyooyinkii runtii aad u dadaalo kale haweenka magaca leh oo kale علشان إذا كسر جيدين لكن مودمر والبا هوانكي دور كودي إن لقى سجيو قضيو أما قبيل أما قف محاهيتي هجامية بيل وأنا نصيب درو سببتها نبينا عليه الصلاة والسلام قبلي صحابة وحي قيب لي بحكي قيادين جيران ومركا بالشدة مركا وحد مودا إن نجي لبعضنا هيسة أي تهاي قضية قبيل hogaaminaya haddii alashaan iyagii laga sugo go'aan inay u gaaraan in gabdhaha ka qayb qaataan siyaasadda iyo horumarka bulshada waxaa markaa imaanaysa in la isu su'aalo anigoo intaas dadaalaya bilmatalan ama gabadhii soo dadaalaysa ee wax soo baratay ee fahamsan hababka kala duwan iyo siyaasadaha kala duwan oo loo qaadaa dhigaya horumarka bulshada oo diyaar u ah in ay waqtigeeda iyo geliso tamarteeda iyo dhaqaalaheeda iyo aqligeeda in
oday beeleed lagala tashto hadda oday beeleedoo danta guud ma fahamsan yahay taasaana runtii badanaa aan la isla fahamsanayn danta guud haddaan la fahamsanayna dee danta gaarka laftigeeda lama gaari karo intaas hal su'aalaan jeclahay inaan ku weydiiyo maadaama aan ognahay inaan wasiir ka soo noqotay Puntland aan ognahay oo maanta mawduucu uu yahay women in educational leadership waxaan ognahay wasaaradda kaliya dumarka la siiya ama ay leader ka noqdaan inay tahay wasaaradda haweenka ayadana waxa ay magacaas lagu siiyay loo siiyeen marka inta aad joogtay ma u halgantay in habluhu ay ka soo muuqdaan wasaaradda waxbarashada nafteeda oo ay qayb libaax leh ay ka qayb qaataan waa mahadsantahay wasaaradda waxbarashada nawaal markaa leedahay macalashaan wasaaradda khaas ahaan waxbarashada inay hogaamiyaan miyaad ka wadaa inaan su'aashaada fahmaan doonaya iyo sektoradeeda kala duwan haddii ay ahaan lahayd agaasimaha guud iyo agaasima waaxyadada inay aysan kaliya la dhihin halkii gabaroo lasoo magacaabayaba ha lagu qoro wasaaradda haweenka ee wasaaradihii kale oo igu horeysataan waxbarashada maadaama maanta mawduucu waxbarashada yahay macalimaduna ay inala joogto wasiirad mahadsanid nawaal wasaaradda horta waxbarashada sidaan ka warqaba aniga oo Puntland waxa weeyaan gabdho badan baa hogaamiyayaalka ahaa agaasimo guud ma aysan lahayn oo gabar ah laakiin agaasimo waaxid yaa jiray waxaa jiray macallimiin badan oo gabdho ah waxaa jiray gabdho badan oo barnaamijyada waxbarashada isku dubaridayay dabcan waa ay jirtay iyadana caqabada jirta in hablihii markay wasaaradaha kala shaqo u raadsadaan oo kale leeyahay wasaarad haween baaba leedihiin maxaa halkan ka soo doonteen taasuna waa khalad wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoysku waxay ku sal leedahay iyadoo la yiri oo kaleeto health and human services department oo kale waa arrimaha bulshada iyo horumarintooda ku leedahay ma aha gabadh kasta oo soo baxda oo horumar u dan leh ama inay bulshada horumarkeeda ka qayb qaadato inay wasaaradda haweenka uu ka qayb qaadato oo ay ka shaqaalowdo marka taas jaahilnimo jirto weeyaan oo u baahan in waxyaalo badan la falanqeeyo dadkuna isu yimaadaan markii wacyigelin la'aan ay jirtana waxyaalo badan baa runtii isfaham la'aan badan baa imanaysa dhanka aniga shaqadayda ahaan aniga markii 2016 la gaaray barnaamijyo badan baa la qabtay oo dowladda federaalka xataa ay soo dirtay wafdi yimaaday Puntland odayada beelaha oo dhanna baarlamaanka Puntland lagu shirinayay dhowr cisho si looga dhaadhiciyo ahmiyadda ay leedahay in la helo 30% oo haweenku ay siyaasadda ka qayb qaataan waxaa dhacday markii la gaaray madaxtirsigii iyo in gabdhihii la soo dooro iyo haween badan oo soo halgamay oo dalka gudihiisa joogay iyo kuwii dibadda ka yimidba aan isu keenay oo iyagu ay diyaar u ahayn inay xafiis ay hogaamiyaan ba waxaa dhacday in odayadii ay yiraahdaan waagu ku baryo yiraahdaan wareedha maxaa meesha ka socda haweenka kan xagee ka soo yaaceen ilaa iyo daraataa laydinla kulmaayo oo waxaan laydinkala hadlaayay ma indhala idiin mana dhagala idiina xagee lisan iyo rifanka ka socdaa markaas waxay noqotay inaan marti qaado ninkii xoghayaha u ahaa magaciisa iga maqan Britishka ahaa something Keithan then markuu yimaaday ilaan qabiilaha Puntland lagu wada degan yahay ragga odayaasha ku soo haray PDRC markii ay haweenkii la hadleen ninkii oo hogaamiyaashii hore oo kaleeto ay la hadleen sidii madaxweyne Cabdiraxmaan Farool oo kaleeto wasiirkii hore waxbarashada Cali Xaaji oo kaleeto iyo dhalinyaro kale markay la hadleen kadib baan waxaan niri odayadana la fariiso oo bal arrinkii reiteration ama ha lagu sameeyo tixraac ee laga wada tashaday ee baarlamaanka lagu qabtay 30% ku salaysnaa odayada halkaas fadhiyay hal oday oo majarteen ka socdo beesha majarteen ma ku jirin mareexaan baa yimid leelkasaa yimid dhulbahantaa yimid warsangeliyaa yimid intii kale aawe sheekadii eeyaa cunay noqotay marka dhibaatada meesha ka jirta waxay tahay gabar hadduusan oday u talinaynin odaygan uusan gabadha ku qanacsanayn gabadha hore uma soconayso oo dee waa aniga laftigayga taygu dhacday haddaan odayga aniga qabiilkayga hogaaminaya aanan maxay ahayd qaadaadhigayn wax uu isaga iiga baahan yahay isla markaana aanan noqonaynin midii danta guud ahayn haddana kitaabna lagu marinayo waxaa meeshaas ka jira major disconnect wax la yiraahdo waxyaalo badan oo isfaham darro ah iyo waxaa jira buuq badan baa ka jira marka anigu waxaan oran lahaa markii taas ay dhacday aan dib u noqdee aan arkay in odayadii meesha ma jarteen ay ka maqan yihiin hablihii isugu yimid meeshana beelaha degan
Puntland oo dhan ay ka tirsan yihiin baa waxaan yidhi alloor waxaan qabanaynaa public service ama public announcement ama jaamacadihii oo kaleeto inta lala fariisto baa qof walba haweeney kasta intay meesha soo istaagto bay ka hadlaysaa mawduuca iyo danta ay u timid iyo ahmiyadaha ay ka leedahay hoggaanka markay qabato iyo waxyaalaha ay rabto inay maxay ahayd aasaasto hadday xafiiska loo dhiibo ay ku guulaysato waxay keentay in ummadii guud ahaan iyo bulshadii aanu soo aruurino si aanu uga dhaadhicino muhiimadda haweenka hogaamiyayaasha ah ay leeyihiin isla markaana ay iyagu aan taageero aan ka helno laakiin nasiib darro dee bulshadii ma aha mid noo codayn kartay oo haweenku u codaynaysay taasaana keentay in haween badan ay soo geli waayeen boosaskii oo rag lagu bedelo wasiireed aadaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aan nala qaadatay iyo live experiencegaaga iyo kasoo qaybgalkaaga weliba anoo og inaad tahay dadyowga ugu faraha dhuudhuuban ee ay dhaqaniso arrinta Soomaaliya gaar ahaana arrimaha haweenka waa mahadsantahay wasiireed thank you very much waana ku mahadsantahay waqtigaaga iyo commentigaaga qaaliga iminka dhegaystayaal daawadayaal kasoo qaybgalayaal waxaan u gelaynaa su'aalihiinni haddaba waxa ugu horeynaya Cumar Macow Cumar walaalo anmud baad iska dhahaysaa kadibna faallada iyo commentiga aad qabtid ayaa weydiinaysaa ida male ifraax السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برو سودو waxaan rabaa inaan weydiiyo professorada marka wax badan ka hadashay discrimination iyo ka hadashay iyo haweenka fursada ayna helaynin marka waxaan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed markay wax baranayaan ay jaamacad dhameeyaan waxay isu diyaariyaan inay jaamacad kala galaan oo ay warshad noqdaan ay soo saaraan dad soo saaraan ma la dhihi karaa caqabadaha haysta waxa kamid ah hooyanimada ayaa ka reebaysa inay ay higher education ay ka qayb galaan oo jaamacadaha ay qayb ka bixiyaan إبراهيم كسمينا سؤالها قرأ بإذن الله ستحدث سؤالات سوق علينا إن شاء الله. أوكي أبو هذا أمها سنتها هاي مود قرأ. عدو سودو ولا الكي. وادوها أستاذ إسلام أبو محمد العناية سيدو كلا برارك ضمان بكيسو طبعا كابي برنامج كان مين مقشين؟ واكم مقلنا سفيان هذا مالي مقلا نحاول الكي واكم مقلنا سودو سؤال هذا وكذا كنا فايدة سو وقت قام ولا غدق مين مقش اوكي اوكي هذا ما سنتين نورتا وأمعد لنا يا دكتوريسا إفراح قابك ونأتسان وأي أصو ديارسي وبرنامج أن أغسط كراي وواي وأنا لو باهاني هاي بلشد إن لقى وعي قليو وحياو بدنا كهذا الشيء أو أي كمت هاي ليدرشيب إني ميل كلي أي ليهن أو قبلي أي كم قيهن مركا وحياو بدنا لو سوبيي مركا حدنا إفراح وحيكون وشها ودن كأمريكا سان أبنى هنا أمريكا تاريخ ما مرينا أو ملينا مدحوينه ومحاردها يشيك جبر مرك أرين كاني وأرين معناها أدون كدن سامي مالس ديكرا أشياء عن خبوه مدكل وحي كهذا الشيء إن قبلها لو غير وليدرشيب كوحكم ده إن قبلها أيهين emotional تاسنا صح واي مالديه كرو ما دام أي قبلها somehow feeling koodi isbedelo oo aysan waxyaabo badan aysan u dul qaadan karin saashaas ayaa qabay marka idinkan adin waa ku maxadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha baraarug library iyo doctoresa Ifrah waa u maxadcelinayaa aad waa mahadsantiin waa mahadsantahay walaalkay maxamed barre walaalkeena qaaliga soo dhawow anmud maasha Allah kariima سؤاشانيتو واسك جنرال واي both معناها إيه إفراح إيه أنيسة إني as academic wise ما دام نفتي وهذا واحد بدن يكون هجرين أرمهانيتو متبرر لسوق قبته أنيسة رول كذا as assistant commissioner in Minnesota State at the same time معناها وهو وزير هوري دولة كونتنا as well as إفراح who is an educator قف معلنة waxaan dhihi lahaa
كلي إفراح you address this issue لكن وحنده لها in general محا حكي أرنتاني to I understand أنيس وحيت هذا leadership كمعنى traditional leadership problem كمشوا كي ما ضمنش maybe somehow that is completely right لكن failure كاريتو وارد كحقيسة قعن كلية بربر كدجال كقعن كلية نمكي أولي معناها power إسكهستا culture كسومالي ده إن أقوانته إسكير إيو معناها social awareness أو أن هو أجري رونهانتي وأكون فرحان إن هذا باللعبتي مركا كل هل وحكري أما it's a combination of so many issues مركا لبدينا بإذنكم معناها هو قبة تيسا يصير أوقات معناها وجوابه سؤالش معناها where is this breakdown coming from I understand culture كسومالي اللي باتوا نيجرتو إن وارد كهالكام وحل وحنتا إن معناها قبل جورجا leadership كي هوش الغبرة اللي هي على تدق سانسوبي ويل كان اللي ويل حقها فنيو so is that disparity unfairness coming from home itself وارد كي on أقون ساس أصيدرو سرلهن أو استهين بمعناها in أيسن without being aware إن قلت سو بنايان إسبو وجيبو عدالة درد إسو بنايان وكبح يقرأ لها نوص مخص الله waa mahadsan tahay ifraax soo dhawow kadibna su-aasha ugu dambeysay ee maxamed barre idin weydiiyey wasiiradda si wada jira kaagala jawaabi doonta su-aasha ugu horeysay waxaan u maleynayaa inay yiri hooyanimada miyaa ka reebayso inay jaamacad inay gabadha jaamacadda master's degree mise PhD ay sii aado baan u maleynayaa inay tahay aniga ma rabin inaan dhaho run ahaantii hooyanimada ka reebayso waayo hooyo baan ahay hooyanimadana waa shay muhiim ah bini aadan markaana dad markaan nahana waan u baahanay inaan wax dhalno oo aan sii wadno dadnimadeena iyo bulsho ahaanteena Soomaalinimo kaliya ma human beings like we need to continue to propagate the human species right hooyanimadana waa shay qaali waa muhiim waxaan rabaa inaan dhaho hooyanimada ma kaliya waaridnimada marka hawshan hooyada badankeed waxaan arkaa waaridnimada waxaa lagu soo kooba hooyo kaliya inay mas'uul ka tahay everything ilmihii dhalistiisa obviously taas waa noo gaar samaha laakiin rearing korintii wax kasta barbaarintii waxa lagu reebayo hooyada hadda hooyada kaligeed lagu reebo way ka hor istaagaysaa laakiin shaqada hadda la isla qaybsado ma ka hor istaagayso marka waxaan dareemayaa inay dhaqanka ay tahay in shaqada la qaybsanin shaqada waaridnimada haddii la qaybsanin oo hooyada kaliya maxaa la yiraahdaa loo reebo hal qof waa hooyada inay shaqayso inay maxaa la yiraahdaa everything guriga ka suubiso macquul ma noqon karto because qofka bini aadanka maxaa la yiraahdaa intaas ba energy iyo waqti ma ba haystaba right waxaasna waa waxa maxaa la yiraahdaa hadda even in Mareykanka really soo baxday marka covid pandemic uu bilaabmay really soo baxday hooyinka hadda guriga ka shaqeynaya inay laba shaqo haystaan shaqadii guriga inay u soo iyo ilmihii inay ayada u soo hartay iyo ilmihii iskuulka ka caawi iyo shaqadeedii ee banaanka aadi jirtay ay gurigan hadda ku suubinayso si cad bay u soo baxday xataa meeshana ku nooleenay cadaalad ay ka jirin ee hooyada maxaa la yiraahdaa waxay tahay Soomaali ahaato cadaan ahaato Hispanic ahaato inay labada shaqo saddex shaqo mar qaarkood isku wado shaqada hadda la isla qaybsado ma ka hor istaagnaanayso hadda la isla qaybsanin hadee qofka bini aadanka wax badan maxaa la yiraahdaa intaas shaqo inay kaligeed isku wado macquul ma ba ahabo marka aniga taas waxaan u celin lahaa raggan u celin lahaa waxaan dhihi lahaa maxaad gurigeena aad ka qabatiin maxaad ku darsatiin ilmo korinta maxaad adiga gurigaad ka qabataa ma fadhiida cuntada ma lagu keenaa kaliya mise waxaa tahay qof maxaa la yiraahdaa joogo mentally emotionally physically joogo oo guriga iyo ilmo korinta ka qayb qaata 100% okay su-aasha labaad waxay ahayd waxaan rabay comment inaan ka bixiyo doctoraysa wali doctoraysa mi marka aad u mahadsantiin I really appreciate it laakiin waxaan rabaa buugayga inaan qoro and walina ma ba apply garaysanan ba PhD marka ifraax is okay is ifraax udgoon bis
somebody wuxuu yiri professor thank you very much lakin insha Allah waan gaaraya wali ma gaarin su'aasha dhabta ahadna waxay ahayd emotional ma yihiin haweenka aniga waxaan aaminsanaa qofka bini'aadanka rag iyo haweenba inay emotionalka labadaba yihiinbo right way noqon karaan qofka bini'aadanka maxaa socialization maxaan bulsho ahaan aan ka aaminsanahay ragga emotionkooda iyo haweenka emotionkooda laba shay baan ka aaminsanahay ragga inay emotion lahayn haweenkana inay too much ay leeyihiin yeah xaqiiqatan biology marka loo fiiriyan labadooda capable baan ka nahay right labadaba capable baan ka nahay inaan emotion aan leenahay inaan express gareyn karno emotionkeena right so dhibaatadana haysana ma aha haweenka inay emotional ay yihiin waxa waaye raggan inaan looba ogoleynba emotionkooda inay qirtaan mise emotionkooda maxaa la yiraahdaa inayba jiraan taasna uma maleynaa inay healthy tahay it's not healthy qofka bini'aadanka inuu emotion la'aan maxaa la yiraahdaa oo just emotionkiisa inuu mana qiranin mana caburiyo I think aburitaanka emotionka baaba dhibaatada ka imaadaabo ma aha and I believe it's a myth inay kind of like been abuurtahay haweenka inay mas'uul qaadi karin maadaama emotionally yihiin you know emotionalka maxaa la yiraahdaa waxaan u arkaa waxay sawirka ii sawirmay waxa way qof iska ooynayo waxba xamili karino you know ma aha emotionka waxa marka sad dareemaysid marka happy dareemaysid marka maxaa la yiraahdaa murugo dareemaysid waxaas bani'aadanka dhan waxaan u nahay equal ساشو قدام بيستنا حيت where is the breakdown coming from the disparity aniga waxaan aaminsanaa run ahaantii everything inay guriga ka bilaabato a lot of the things maxaa la yiraahdaa socialization ka iyo dabeecadaha waxa saxda kulay oo waxa saxda waxaan ka wadaa waxa maxaa la yiraahdaa normalized waxaan ka baranaa first guriga laakiin guriga waa ka tagnaa school baan aadnaa right school baan ana dad kala la kulnaa dad kala la shaqeysana so bulshadana maxaa la yiraahdaa qayb bay kamid tahay the disparity bulshada guriga wixii lagu soo bartay bulshada way sii wadaa mise way ka soo horstaagda laga yaabaa gabar ina aabaheed maxaa la yiraahdaa u fiican yahay oo aaminsan yahay inay karti badanta wax kasta ay baran karta laakiin qofkaas hal qof waaye bulshada markay u soo baxaan gabadha iyo aabaha waxa laga yaabaa bulshada inay ka badan tahay bulshada aaminkeedan xoog badan bay leedahay marka ma dhihi karo kaliya run ahaantii guriga waaye a lot of times aniga waan dhihi jiray it starts at home and it's still important at home what happens at home wali waxay kugu leedahay noloshaada iyo maskaxdaada saameyn weyn bay ku leedahay it leaves like an imprint you know imprint how do I say that in Somali right imprint right it leaves an imprint in your body waxa guriga aad ku soo baratay laakiin bulshadana xoog badan bay leedahay because laga yaabo guriga inaa lagu soo baray gabar kartile inaad tahay aqoon badan bulshadana waxa laga yaabaa inay ku xasuusteen inaad naag baa tahay waxaas ma suubin kartid waxaasna ma suubin kartid marka labadaba waxay leedahay mas'uuliyad obviously a lot of these other things institution ka breakdown ka maxaa la yiraahdaa obviously bulshada saameyn weyn bay ku leedahay lama yareyn karo saameynta ku leedahay bulshada burbur iyo breakdown إفراح هذا محسنتهاي thank you so much and وزيرد سؤال قدام يسي أو محمد نويتي your comment waxaan rabaa aniga ifraax aad baa u mahadsantahay maasha Allah ilaahayna ha ku fududeeyo PhD-ga insha Allah I'm sure inaa wax badan ku soo kordhinaysid bulshada iyo gabdhaha walaalaheen kale iyagana daneynaa inay ilaa PhD gaaraan insha Allah runtii waxaa wanaagsan markaan ka hadlayno guud ahaan waxa guriga ka dhacaya ama waxa banaanka ka dhacaya iyo sida walaashay ifraax oo kale u tiri oo kale saameyn bay kugu yeelanaysaa ama imprint waa scarring for life oo kale noqonaysa saameyn weyn ay kugu yeelanaysaa calashan cilmi nafsiyan waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo hoggaan markii la yiraahdo annaga dad ummad muslimaan nahay dabcan dhaqan baan leenahay dhaqan adagaan leenahay oo waliba dhaqan geel jira ah oo aad iyo aad dabciga calashan adayga iyo naxariis la'aanta iyo dhagaxnimada laysku wanaajiyo laysku amaano dhaqankaas marka ma aha dhaqan islaami ah dabcan dadka taariikhyahanada un baa ka hadli kara meeshuu ka soo askumay laakiin diinteena nasteexada iyo isu naxariisada iyo isu soo dhaweynta iyo isu jilicsanaanta waa wax la ogol yahay waana wax la taageerayo marka hoggaanka markii la yiraahdo diintaan rabaa ani marka dhankeeda inaan ka fiiriyo ma rabo dhaqankeeda inaan dhaqanka dhinaciisa fiiriyo sababtoo ah geel jirnimada yaa geel wadi kara nin adaga oo dhagax aha wadi karo maalmo qatanaanaya gabar maskiin oo teeda qaadil oo gurigii joogto cunto karinayso oo ilmihii haysa ma kaxayn karto geela sheegay anigaygaas kula hadlaaya xataa ari ma raaci kari dhibay igu tahay runaa fiican moogtahay laakiin maadaama diinta aan ka hadlayno
yaa diinta loogu talagalay in uu qofka uu hogaamiyo noqdo quraankii sunnaha marka qofka leadershipka ama hogaanka qaadanayo waa qof ama waa merit based wax la dhaho waa qofkii inuu u qalmo cilmi ahaan aqli ahaan garaad ahaan marka garaadkii iyo aqligii iyo awoodii qofkii ilaahay siinayay ma oran karnaa waxay ku xiran tahay in ama nin uu yahay ama naag ay tahay waa may nafs wa nafsa leer ilaahiga weyna waaxidka qofku abuuray aqliga iyo garaadka iyo kartida uu siinayana ilaahiga weyna waaxidka waa wuxuu asiga bixinayo ma aha wax ay umad gooni ah ama rag ama lab ama dadig ay dhigi karaan waa loogu talagalay taas marka darteed gabdhaha hadday wax baranayaan ama iyagoo hooyo ah ama iyagoon hooyo ahayn wax way baran karaan mana ka celinaysa taas caqabadna ma u keenayso laakiin in gabadhii maadaama dhaqankii uu yahay in la istabantaabiyo oo gabadhii ay reerkii isku hayso oo dadkii kaalmayso oo ay shaqayso oo biilkii keento weliba dagaaladii say u dhaceenna iyaga laftigooda mas-uuliyaddooda sii ballaaratay waxaa dhici karta gabadhii inay dhib ku noqoto iyadoo hooyo haddana inay iskool aado anigaygaas dhibay igu ahayd laakiin walaalahay iyo waalidkay la-aantood uma malaynaya inay ii suurageli lahayd ilaa heerkan aan jaamacadda ka gaaray weliba sharciyaan rabi inaan barto laakiin way ii suurageli weyda waxay noqotay marka masterkii keliya inaan diyaariyo sababtoo ah waxaan isku wada keenaya waxaasoo dhan haween feminista way jiraan oo dhahaya everything aad rabtid waa heli kartaa taas macquul ma aha adiga leetinta kaa bidaysaa laakiin gabadhu wax way baran kartaa haween ani inta waxaan kula kalmay hooyooyinkay la eg oo markay waddankan imaanayeen maraykanka u yimaada inay wax bartaan oo bachelorkooda ay soo qaateen halkan waxbarashada inay sii wataan haweenka marka waxay barteen maxaa waaye mataqaan waa beeraha wax technical keliya ku saabsan ay barteen social science xataa ma ahayn and that was really amazing aad baan ani ula tacjaba wax qurux badan aan u arkay role model dad inay yihiin aan u arkay marka waxaa soo hartay xagga dhaqanka dadka saameynta markii laga hadlaayo gumaystihii saameyn weyn uu nagu yeeshay talyaaniga hadda markii la fiiriyo kala maafiyada iyo culturekooda iyo siday u dhaqmaan oo kale ragga maqaayada iskugu soo aruurayaan maanta dhan waa daldalmayaan cuntaa la cunayaa businesskii iyo dadkii la dhici lahaa iyo qofkii la iska celinaya laga hadlayaa soomaalideena maanta waxaa arkaysaa raggii inay meelaha qaxwada ay farfariyaan iyo maqaayadaha ilaa maraykanka xataa halkan waa sidaaseeto haweenka hadday xataa inay carruurtooda wataan oo meel gooni fadhiistaan waxaa dhici karta in iyagii ay xataa meel gooniyo yariisa luuqa la geliyo oo si qaab daran oo xataa la hagaajin oo la diyaarin raggii laakiin meeshooda waa meesha ballaaran waa meesha weyn waa meesha iskugu imaanayaan raggaas waxay ka hadlayaan waxaa laga yaabaa inaysan ku saabsanayn sidee carruurteena u horumarinaa sideen dadkan uga horumarnaa sideen annaga u noqonaa dad soomaaliyeed oo isku xiran oo berri ka maalin wixii ay ka tageen ay noqoto mid ummadoo dhan saameyn ku yeelato tusaale lagu soo qaato taas ma aha waxa laga hadlaya siyaasadda laga hadlaa iyo qabiil fulaan muxuu suubiyey iyo xaguu gaaray iyo sideen kaa uga soo hormar waxaasinimo iyo wax yaroo macno lahayn ku saabsan buug la qoraayo iyo science iyo lagama hadlaayo xataa dayaxa dadka aadaya sideen dad ugu darsan karnaa waxaan dhakhaatiirta sameynaya science-ka iyo dawooyinka cajiibka ah see dad ugu darsoonaa waxaasoo dhan ma jirto hadalkaas ma jiro waxyaalaha gumaysiga aan ka dhaxalnay ka mid tahay marka waayo ninka diiniyan inuu reerkiisa u shaqeeyo markuu maqan yahay uu yahay nin libaaxa markuu gurigiisa yimaadana qof jilicsan oo ilmihii daryeelaya oo haweenaydii iyo reerkii daryeelaya oo ka qayb qaadanaya horumarkii nolosha iyo barbaarintii carruurta weeyaan taa marka ma jirto waxaa keentay marka meesha in kala go uu yimaado oo dhinacii dhaqankii ahaa dhinacii isfahamkii ahaa loona arko haweeney baa tahay adiga meeshaada fadhi guriga unbaad aad ku eg tahay waxaan kaloo ku darayaa marka gabadha sida abaa ifraax tiraa kale gurigana way ku keeni kartaa in saameyn ay ku yeelato horumarkeeda puntland waxaan ku arkay haween aad iyo aad iyo aad u aqli badan iyo gabdho aad iyo aad u aqli badan oo aan is-iri mararka qaarkood gabdhahaas hadday taageero badan ka heli lahayn bulshada dhammaanteed iyo xataa odayada qabiilada hogaaminaya in wax badan ay ummadda gaarsiin lahaayeen puntland keliya maaha soomaali weyn oo dhan oo gabdhaha xataa afrika aan tusaale u noqon lahayn gabdhaha asia laakiin ma aysan dhicin sababta waxay tahay gabadhii waxaa lagu soo barbaarinaa iskoolka maalintay bilowday guriga markay joogto xishood gabar baa tahay gabarnimadii ilaahay u dhaliyey ee hibada ahayd baa cudur looga dhigaya gabadhii markii su-aasha la weydiyo waxa laga yaabaa inay afka daboolato ay aamusto ama sii jeedsato oo la dhaho way xishoonaysaayee iska dhaaf taasna waxay keentay in gabar badan oo ra'yigeedii iyo aqligeedii wax kusoo kordhin lahayd ummadda la aamusiiyo marka
ani laftigaygana khibrad waxaan ka helay guri waxaan ku soo barbaaray aabahay uu leeyahay ani gabadhayda muhiim uma ah inay cunto karisay waxa muhiim u ah inay wax barato buntland markaa imaada waxaa leeyahay gabaraa tahay maxaa waxa noo akhrinaysid gabaraa tahay qabiil maba matali kartidba taa marka waxaan ka leeyahay anoo usii dagaandagaaya hadalkiinaan soo kufiyaan rabaaye oo ah gabdhaha emotionalkooda dartooda ama qiirada ay qiiroonayaan ma awoodaan inay wax hogaamiyaan waxaan rabaa taa inaan oga baxo Sumaya binta Khayaat waxay ahayd qofkii ugu horeeyay oo diinta islaamka darteed u dhinta waxa laga yaabaa dadka badankooda inaysan nolosheeda si fiican u aqoonin waayo markii ay dhalanayso waxay dhalatay iyadoo slave ama la adoonsanayo laakiin kadibna waa la xoreeyay markii dambeeto Yaasir ibn Amiir ay guursatay wiilay dhashay radiyallahu anhu iyaga dhan laakiin Sumaya maadaama ay qoys yar ka timaaday oo markay diinta ay qaadatay islaamka maysan haysanin cid maxay difaacaysa qabiil xoog leh ama quraysh kalena kama aysan soo jeedin saas darteed waxa lagu amray inay diinta ka baxdo diintii markay ka bixi weyday iyada iyo ninkeedii waa la afduubay waxaana lagu qasbay inay diinta ka baxdo wayna diiday way ka soo istaagtay markii dambeeto ayaa Abu Jahal wuu dilay marka waxaan taa oga dan leeyahay waxay tahay gabadhaas aan qabiil xoog la ka dhalanin adeeg ay u adkeysanaysay ay maxay ahayd ay go'aankeeda ku adkeysanaysay waqtigan dhawna waa hijradii labaad waay waa 1500 sano ka hor waay ka waran maanta marka gabdhii awoodo ay leeyihiin oo waxbarasho iyo cilmi iyo horumar badan oo waxyaalo badan ay hadda ay access u haystaan in la dhaho emotion darteed maadaama iska qiiroonayso waxba ma hogaamin karto waxay ka mid tahay jahliga aan u baahannahay inaan ka baxno jahligana waxaan uga bixi karnaa inaan mar walba diinta u noqono dhahno diintu arrinkaa maxay ka qabtaa and I know rag badan waxay dhahaan nin qabiil maxaa dhahaa ummad haween ay hogaamisay way qaribmaan waxaa wanaagsan aayad kasta ama xadiidka siduu yahay inaan indheeno aqligeenana isticmaalno wixii ilaahay noogu talagalay oo saxda ah oo xaqa ku jirana aan wixii u fiirno laakiin qofkii dana gaar markaas wata ama rabo inuu faquuqa haweenka ama u diido inay horumarka ka qayb qaataan dee dabcan haddii ummadda kale uu ka helo maxay taageero way u suuragelaysaa halkaasna waxaa imaanaya in ismiisaan la'aantii ay timaado oo rag badan ay noqoto inay ka hadlaan arrimihii haweenka arrimaha haweenkana ragga kama hadli karaan haddaan runtii isku sheegno arrimaha bulshadana ma ka hadli karaan niman maanta oo dhan fadhiye maqaayadoo shaah cabaayay ummad bulshada siday u horumari lahayd kama hadli karaan bilaa caleeg runtii la isku sheegaa fiican jahligana inaan ka baxno waa waxa meeshaasna dhigaan weli uga soo kaban la'nahay faquuqa iyo qabiilnimada iyo bahdilka ummadeenna haysata weeyaan iyo markaan meel tagno kaleetana innagiina la faquuqaayo oo la leeyahay dadkaanayta soo taaganoo indhaha la maxay tahay waa dhaqankii geeljirnimadaan weli wadanaa axsan dhaqan fiican aan qaadana haddaan qaadanayn dhaqanna midka diinta aan ku ekaano iska dayna midka geeljirnimada wabilaa tawfiiq حياك الله وسيرد هذا أمها صنتهاي هلكن واحد تاجية صدق حبلات بتاجية فتحية إيو فائزة إيو نصرة مركها وحنوجهر مرنا يا فتحية سودو أبايو سؤال شاذنا هراي أقول أنموت إسكده أيوة سلام يا gabdhaha hogaaminayay ka mid tahay Ifraax iyo nanta kale sorry magaceedi waan ilaa Nawaal Amiin yes iyo wasiiradaba sidoo kale waxaan weydiin lahaa horta Ifraax horta ma haweysan karno Mareykan percentage-ka aynu ku yar yihiin haweenku ma ahan waxaas oran karaa ma haweysan karno inaga marka Soomaali ahaan institution-keena waxbarashada meelaha marka eegto waa waxaas dhihi karna waa meelaha ugu yar yihiin dumarku jaamacadaha qaarkood ama goobaha waxbarashada iskoolaadka ama meelaha qaarkood dumarba kama shaqeeyaan totally aan ahayn kuwa wax baranaya dumarba kama shaqeeyaan jaamacad waxaad arkaysaa ilaa 6 kombas ama ilaa 5 kombas oo ay gabadhiba ku jirin baad arkaysaa marka taas waa taas oo halkaas in ka joognaaba dumarka marka ragga wax baranaya gabdhaha iyo gabdhaha wax baranaya waxa laga yaabaa inay gabdhihii badan yihiinba marka in badan anu waan isweydiiyay su'aashaas siyaasadda iyada waa in ku yara badan aad dhihi kartaa sabanadan dambe marka la eego waa xilligii hore laga imaado laakiin goobaha waxbarashooyinka waxaynu ka nahay 1% ma dhihi karo macnaha tirada dalka oo dhan meelo badan runtii aan arkay taas waa taa su'aasheed marka waxay tahay Ifraax ma dhihi karaa dumarku intooda badan eego gacanta isma qabtaan waxaad arkaysaa gabadh baad wax uga baahanaysaa baahi kaa galaysaa
adii wiil wada socdaa ayaa baahi idinka galaysaa ama soranaysaa hawlaha kuu qabato aad isdhahaysa kabacdi wiilkii bay horreysiinaysaa hadda maba taqaanaa adinkaaba asxaab ahaayo ama hawl wadaag ahaayo ama siyaabo kale ahaada hablaha qurbaha ka yimaadan inta badan dhaqanadan ka aragnay iscaawinta iyo maxaa la dhahdaa inay gabdhaha caawiyaan laakiin hablaha intooda badan dalka wax ku bartay totally isma caawiyaan isma garab siiyaan bal waxaan rajaynayaa anu waxaan kamid ahay dadka dalka wax ku bartay aan weli dalka meel nooga bixin laakiin caqabadaas aad bay u taagan tahay mararka qaarkood markaan gabadha wax uga baahday gabadha waxii soo qabato waxaan silaato ma cunsuriyad baa tahay baan isdhahayo waan ku sii dheganaado waan jeclaystaa in badan baan xusaa hadda maalin walba wiil baa waxii qabanaya mana xasuusanayo wandhay ay maalin gabadha waxii qabatay xasuustaa markaas bal taas maxaad ka odhan lahayd dhankaas xaggaas ma ka jirtaa Mareykanka waan dhihi karaa Soomaaliya waa taas oo kule dumarku totally way yar yihiin numberka wax soo qabta hadday jirto weeyaan bay haddii kale ma jirto assalaam ya dhamaantiin waan saasan kaga baxay thank you aad u mahadsantahay abaayadiis aad u mahadsantahay okay Faiza soo dhawow abaayo unmute iska dheh soo dhawow السلام عليكم دمانتين وإذن سلامية نوال إفراح أدقون إكس وزيرة أنيسة runtii maasha Allah ilaahay amtaashiina ha noo badiyo gabdho ilaahay dartiisa aan jecelnahay oo aad u wanaagsan baatiin su'aashayda waxay ku saabsan tahay runtii arrin ay ka hadashay Ifraax Udgoon markay soo sameynaysay presentationka aan dhageysanayay waxaa ku jirtay inay ka hadashay gabdhaha inay la kulmaan shukaansi maalayacni ah aysan diyaar u ahayn marka runtii arrintaas meel kaste waxaa haddii aan ka hadlo aniga khibradeyda oo kale waxaan ahay gabar ku nool Soomaaliya joogta marka runtii waxaan wajahnaa waxaan dhihi karaa maalin kastaan dhihi karaa almost yani ii sheeg shukaansi meel kasta ah xilli kasta ah oo nin markuu ku arkaba gabadhii uu moodayo inay diyaar u tahay hadal maalayacni ah marka runtii waxaan dhihi karaa way yar tahay inaad guriga kusoo laabatid haddaad baxdid adoon la kulmin faduul haddaa Ifraax usii fasiro maybe cat calling miyay noqon kartaa ma garan karo marka runtii waxaad dareemaysaa maalintaadii qorxoonayd aad u baxday aad ujeedka ka lahayd inay kaa wasaqowday yani oo lagaa dhex qasay marka sidee ayaan su-aasheed waxa weye arrintaas sidee ayaanu u wajihi karnaa aan munaasabka ku ahayn gabdhaha runtii ay la kulmaan marka si gabdhaha yaryar oo jiilka soo socda ay uga badbaadaan arrimahaas oo kale haddii aan idin siiyo arrin practical ah 2 saac ka hor hadda waxaan ka imaaday magaalada meel checkpoint iyo askar ay baaraysay ayaa askariga waxa waa inuu gaariga baaro yani for security wax yar buu igu soo foorarsaday wuxuu igu yiri cid laa tahay rafiiq ma u baahan tahay wax qofku sii raaco markaas kale runtii waxaa dareemaysaa soo disturbed yani ii sheegaya uncomfortable marka su-aasheeda kalena waxa waaye ma jiraa sharci ama qaab aan ku joojin karnaa arrintaas inaysan dhicin yaa uga dacwoon karnaa options ma jiraa lagu xallin karo haddii Ifraax iyo Anisaba ay noo sheegi karaan wax yani policy arrintaas xadidi karo ama anagiiba aan dee qofkii aan ku qaban karno iyo jiilalka soo socdana si ay u badbaadaan anaga way nagu dhacdaaba marka gabdhaha yaryar oo soo socda saa uga badbaadina uncomfortable kaas inay la kulmaan aad u mahadsantihiin su-aasha ugu horeysa waxay ahayd hablaha mise haweenka gacan ma isqabtaan okay hawl ma isku dirsadaan waxaan rabaa in yar inaan ka taabto patriarchy markaan ka hadalno right patriarchy markaan ka hadalno oo adiga system ah oo male domination ku salaysan oo wax kastoo wanaagsan nimanka u ogol wax kastoo xunna maxaa la yiraahdaa xawa leh dhehdo waxay ku subisaa haweenka competition right patriarchy pits women against each other when isku kendirtaa waayo haddaan isla wadaagno oo aan isgacan qabsano wax badan baan subin karnaa right so patriarchy ujeedadiisa waxay tahay inay haweenka is hordhigto oo the little maxaa la yiraahdaa scarcity waxa yar oo soo haray after bariiska nimanka la siinta yarta soo hartay ma garanaysaa aan isku dagaalno way ujeedadeeda dhanbo right so we have to understand that inaan fahanno markaasna aysan gacan qabsano laakiin marka hore waxaa ka horeysa inaan fahansanna systemka siduu ku dhisan yahay inuuba ku dhisan yahabo waxa yarta soo hartay hadayba soo harta hamba yarbo inaan isku dagaalno intaan hambadaas yarta isku dagaalan lahayn inaan anaga isgacan qabsano oo maxaa la yiraahdaa our own way aan subino our own systems our own maxaa la yiraahdaa creation waxa abuurka
inaan maxaa la yiraahdaa isla suubin isgacan qabsano mid kastaba mid hadday hor gaarto inay tangadaasheeda garanaysa ay sii caawiso meel baa waxaan ku arkay Toni Morrison, an American writer, waxay tiri the purpose of freedom, right? Waxay tiri ujeedada like xornimada waxay tahay qof kale inaad xoreysid. Right? The purpose of freedom is to free someone else. And then Michelle Obama waxay tiri haddaad meel gaartid your job waxa bay qofka kugu xigo inaad maxaa la yiraahdaa caawisid. Marka haweenka Soomaaliyeed all of us waxaan dhihi lahaa wallahi inaan anaga iska gacan qabno aan hambada yarta soo hartaan isku dagaalnay. Taas maxaa la yiraahdaa waa arrin aad nagu fulxun. kan kale waxa shukaansiga maalayacliga oh my goodness sugbal harta screen share kan subiya picture kan I hope inaad arki kartiin picture kan van Facebook mar la wadaag ma aragtiin ma aragtiin picture ka waa aragnaa Cabaya islaamba meel socoto kan gaariga ku jiro fiirinaya kan guriga ku jiro fiirinaya kan wadada socdo fiirinaya kan kala wadada socdo fiirinaya marka waxaan dhahay thinking about how the conversation shouldn't be about women's clothes it should be about men and their audacious entitlement inay nimanka waxay aaminsan yihiin ma dhahay nimanka dhan baasaan aaminsan laakiin dhaqanka patriarchy-ga wuxuu ka dhaadhicay nimanka inay xaq u leeyihiin haweenka jirkooda haweenka waqtigooda haweenka laborkooda haweenka codkooda everything can inay xaq u leeyihiin patriarchy ka dhaadhiciyay nimanka that's why aad u helaynin gabar banaanka kaliya socoto oo faraha laga qaadin oo danteeda gudan karta ani gurigeyga markaan ka baxo waxaan rabaa ay dan baan leeyahay qof weyn baan ahay qof yar hantaan ahay xataa I wake up waan labistaa meel baan u socdaa danteeda rabaa inaan guto gurigeyga rabaa inaan nabad ku soo laabto that's ujeedadeyda right wiil Soomaali wuxuu ku soo qoray meesha wuxuu yiri abaayo gabar sida loola hadlin markii ay wadada marayso qof jiro maba ahabo de no offense marka hore waxaan rabay inaan la dagaalaan rabay ciilba ay qabtay moogta wuxuu evidence it to say markala nin oo iska dhigay inuu istaahilo haween jirkeeda hadalkeeda waqtigeeda everythingkeeda anagoo dhanba waxaan u jirnaa inaan maxaa la yiraahdaa for male servitude way iga xanaajiyay markii waxaan dhahay farax isdajiyo sidaa kale oo ugu sheegi kartaa inankan inuu qaldan yahay marka waxaan dhahay walaal sidaas sax ma aha gabar sidaa rabto horta ma badna haday jiraan ana ku sheegi karaan ana haween ah waxaan rabaa gurigeyga markaan ka baxo dantayda inaan soo guto gurigeyga nabad inaan ku soo laabto mar rabay inaan lifuduulo mar rabay cat calling mar rabay qofaan rabay inaan la hadlo mar rabay shukaansigaan maalin yacli ah mar rabay waxaana dhanbo waxaan rabaa gurigeyga markaan ka baxo banaanka inaan aado dantayda soo guto gurigeyga ku soo laabto right badankeena waxaan ku dhahay waxaan rabnaa danteena inaan magaalada ku gudano gurigeena nabad ku imaano anagoo nala dhibin afka iyo adinka iyo ishwa nalagu dhibin sidaas baan rabnaa marka I feel waxa u baahana and maybe it's a teacher in me macalinimada maxaa la yiraahdaa macalinimadayda waay maybe waxaan go'aansaday just mar qaarkood dadka inaan just wax isuga sharaxabo because marka hore dhiiga 110 igaari this is another man who feels entitled to women's body waxaa jira waxyaalo badan maxaa la yiraahdaa social conditioning oo waxay u baahan yihiin undoing hadda markuu leeyahay gabar sidaas loola hadlinba loo fiirin maba jirtaba right that's objectification haweenka dhanba ina maxaa la yiraahdaa waxaan dhan aan dhahno inaan lagu soo koobo jirkeena inaan qurxannahay iyo in kale that's it maskaxda karti iskada wax kale objectification of women bay ereygaas iyo ujeedadaas like aragtidaas ku salaysan tahay haweenka objectify oo la leeyahay jirkaada mooye wax kale qiimo kale ma lihid haddaaba jirkaada lagu amaanaynin maba jirtidbo right the root of it is objectification and we have social conditioning or haircasna garcia we have to undo it qofka uu qurxanaan karaa qofka karti buu yeelan kartaa qofka maxaa la yiraahdaa wax aqoon buu yeelan karaa mise yeelan kartaa waxay ahaado qofka bini'aadamka inuu qiimo badan leeyahay we have to change maxaa la yiraahdaa these ideas that's the biggest problem and dhanka kalena sharci inuu jiro waayo oo maxaa la especially dhinaca shaqada sexual harassment inay unacceptable ahayn horey baan uga sheegay waxaan dhahay hadduu ninka dareemayo waxaan horta maba suubin karo mar ceeb bay ku tahay right ceeb bay ku tahay oo dadka kale la jooga waxay dhihi niyo si isku dhaan waxaan okay ma aha
oo ceeb buu ka helayaa marka kalena laga yaaba shaqadiisa inuu ku waayabo oo maxaa la yiraahdaa immediate like material consequence buu ku helayaa oo shaqada iyo bariskiisa meesha ku dhumaya haddii real consequence jirin oo indhaha maxaa la yiraahdaa bulshahana iska indha tirayna waxaan dhibaato inay tahay like qofka bini'aadanka public space-ka ay socon karin oo danteeda ay gudan karin waxaa waaye like is a reminder waxay xasuusinaysaa inaad bulshada maxaa la yiraahdaa public space-kaas aad la wadaagi karin ragga public ayagaas kale public space-ka ayagaas kale marka public space-ka ayaga lahaayeen kulli sida iska dhaadhiciyeen aad soo gashid wax kasta kugu dhaco adiga istaahilo adiga dalbatay bay kaas ka micnaynaysaa is a way oo haweenka maxaa la yiraahdaa loo control gareeyo oo loo xasuusiyo positionkooda bulshada right so we do need waan u baahana sharciyo waan u baahana a lot of dhiirigelin waan u baahana maxaa la yiraahdaa dhalinyarta hadda waxaan rabay inaan weydiiyo somebody was saying even dhalinyarta xataa sidaa may u dhaqmaan yes even dhalinyarta sidaa may u dhaqmaan qaarkood aniga last year baa mar Soomaaliya aaday xamar baan jooga liida baan aaday waxay ahayd adiga habeen dambe ahayd 1 in the morning camal hay weydiin waay waxaan saacadaas u socday tourist baan ahay habeen maalinka dhan waa shaqaynayay marka habeenka kaliya nafaas yaraan haystay asxaab baan magaalada la aaday ilmo yar baan arkay wiilkayga wiilkay hadda 13 sano jira adiga ilmo yar 13 sano 12 sano jiro gabar yar oo meesha socdanaya hadda ereya hadda afkayga wallahi aanu quurin ma dhigi waa ka xishoonaya laakiin waad imagine garayn kartaa waa ila ogaan kartaa waxay dhahayeen ilmaha yaryarka uma maleynayo ilmadaas inay kaligood waxas alifeen waxaan u maleynayaa kolley inay maxaa liya wax ay arkeen wax maxaa la yiraahdaa normalized inay tahay wax mar hadday normalized tahana qalad dadka uma arkaan inaad markaas laga dhaadhiciyay noqon horta qalad inay tahay inay xumaan qof u gaarsiinayso inay xadgudub tahay a lot of these lessons wallahi inay waxa fiican yaraan inaan lagu bilaabo qofka kale in la xurmeeyo qofka kale jirkiisa ayada mis ay asaga inay u leeyahay waxyaalahan dhan like bodily autonomy ina yaraan dadka lagu baraa wanaagsan laakiin it's never too late to learn like as an educator waxaan aaminsanahay waxbarashada ma wada dhamaatabo maanta go'aan gaari kartaa inaad wax iska bedelisid you can try waxay dhamaataa kaliya maalinka aad dhimatay ilaha kuu naxariiso laakiin today you can decide to change so we need continuous raise awareness like bulshadeena inaan maxaa la yiraahdaa ka wacyigelinaada arrimahan actually way ma idareensiinaysa inaan jiro waxay idareensiinaysaa inaan public space-ka nabad aan ku ahayn waxay idareensiinaysaa inaan maxaa la yiraahdaa bulsho ka mid ahayn waxay idareensiinaysaa jirkayga mooye wax kale inaan liigu qiimeynaynin anaga daayo taada labaadna sharciga la soo dejiyo sida nimanka maxaa la sumcad la'aan iyo shaqo la'aan ay ugu dhacdo fuduulkaas shaqada ifraax aad u mahadsan tahay warsame shiile qoraa waxaan ka codsanayaa inaad muudka iska qaadid kuna soo dhawaatid faaladaada iyo su'aashaada hadda waxa qabtid نوال aad baad u mahadsan tahay waxaan u maleynayaa in la maqlayo ifraax iyo alisa iyo nasra iyo gabdhaha kale ku jira iyo baraarug aad baan u salaamayaa faalaha rabay inaan ku darsado waxaan u maleynayaa aniga haddaysan dumarka ahaan lahayn sinaba uma noolaan lahayn maba hadli lahayn bacaaway kasoo bilow hooyaday walaashay xaaskayga waxaan u maleynayaa haddaysan intaa ahaan lahayd dee mid walbaba xaalad ahayd tusaale baadiyaa joogay baadiyaha noloshiisa way iska adag tahay oo dee waxaa laga yaabaa inay biyo la-aan jirto abaari dhacdo reerku guuro meel fog loo guuro dee markaan xasuusto yaraanta waxa hooyaday mari jirtay waxaan u maleynayaa maanta anigoo nin ah inaan qaadi karaynin culeysyada intay la ekaayeen walaashay oo andalay soo korisay oo maxaa la dhahaa waxbarashadaydii bixisay ilaa heer jaamacadeed haddana qoys iyadoo leh iyo waxbarashadayda anoo dee qoyskaa ka tirsanayn sida isugu waday iyo dulqaadkaas waxaa maleynayaa inaanan lahayn aniga oo maanta Soomaaliya dee aad garanaysaan maaragtay ka jirto job security iyo howlo badan xaaskaygu sida ii caawisay iyo inta saacadood ay shaqaysan anigu shaqayn karin waxa dhan marka la isku daro dumarku waxa maleynayaa qof walbaba kaalin weyn noloshiisa ugu yihiin bay anigana noloshayda dhan base u yihiin dadka kalena iiga duwan yihiin runtii ma garanayo taa iyo waxay tahay
waxbaan qoraalaan isku dayaa fiction u badan ma garanayo ma arrintaasa mise dee qof ahaan ma garanayo mid ay tahay waxaan is arkay inay qoraalkayga ku yeelatay saameyn aad u weyn oo wax kastoo wax ka qoro ay yihiinun waxaan dumarka ugu doodayo anoon islahayn dee uba doodba ma garanayo meeshay kasoo gashay actually baan xasuusnay qof baa igu yiri niyow kaale ma qolooyinkan dumarka u doodaa tahay waxaan ku yiri niyow maya maxaad ku tiri wuxuu yiri buugaagaan akhriyo waxaad ka hadlaysay gabar maaragtay saasaa loo galay saa loo galay sheeko gaaban oo ayaan dhaweyd soo saartay baan akhriyay oo kaga hadlaysay xamar iyo nolosha gabar shaqaynaysa shaqo raadsanaysa dhibaatooyinka ay marto maxaa la dhahay oo hadda laga wada hadlayay dooda waxaan malaynayaa dee gabdhaha iska lahaa waa kasoo dhexgalay wax badan ay sheegayaan waa caqabad jirta oon la qabo laakiin waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo sida looga bixi karayo caqabadaha badan oo la sheegayo sharci baa u malaynaya inuu ugu muhiimsan yahay hadda sharci baa baarlamaanka hor yaala dood aan ka samaynay baad ka heli kartaan podcast aan leeyahay oo la dhaho ma lagu warramay oon runtii advocacy ugu sameynaynin in sharcigaasi la meel mariyo oo sida loo akhrinayo uusan ahayn sideeda kale uu yahay oo la baasgareeyo ya anana hadalkii baa isaga kay dhexyaacay bar waxaan qabaa mar kasta dumarku inay kaalin weyn waddankan ka yihiin bulshadana ka yihiin soomaalidana burburkii dhacay haddaysan dumarku ahaan lahayn ay wixii dhibti dhacday dhibka weyn ay dhici lahayd actually dagaalkii hadda markuu dhacay bulshada u dhexeeyey dadku way isbadbaadinayeen tusaale inkastoo dhaqanka soomaaliga ay ku jirto waxa la yidhahaa magan haddana waxaan qabaa waxyaalaha ugu weyn oo dadku lasu badbaadinayay dumarka u dhaxaya guurka ka dhaxeeya inuu yahay ehelnimada ay dumarku keeneen ee ka dhaxaysan inay wax badan badbaadinaysa taa marka laga yimaado dee raggii waa qaar dagaal galay qaar siyaasad cayrsanayay qaar iska qiilayay wax walba dee qoyska soomaaliga inuu dhisnaado wax ka shaqaynayay ee hayay dumarkay ahaayeen kayga marka la yidhahdo qoyskaygaan ka hadlay waxa hayay dumarkay kaalin weyn bay ku lahayneen aan maanta halkan joogan hadlayo kaalin weyn bay ku leeyihiin aad baan idinkugu mahadcelinaya ma garanayo wax kaloo ladin dhihi karayo laidinkugu mahadcelin karayo waxaan qabaa dagaalka wada maybe waa la guuleysanaya runta way waxaa ka hadlaysaa runtana markasta iyada guuleysanaysa xaqiiqada iyada banaanka imaanaysa marka aad baad u mahadsantii waxa weyn advocacyga hadda u baahan in loo advocacy gareeyana waxaan malaynaya in sharci la helaa joojinaya in lagu xadgudbo qofka dumarka jidka maraya tan shaqada raadsanaysa tan waxbarashada u socotaa tan social mediaheeda ku jirta doonaysa inay bulshada wax la wadaagto yaa si walba marka gabar sawir soo dhigta social media aad ka garanaysaa inay dhibaato bulsho jirto sawir public yaalada baad ka garanaysaa marka aad baan idinku mahadcelinayaa mar kale haddaan doodiina idinkaga ciyaarayna iga raalli ahaada aad baa mahadsantihiin kala warsame aada u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa qalinkaagu inuu dhawaaqiisu meel dheer u gaari doono ifraax intaanan soo qaban xafsa oo ah qofka ugu dambeeya ee gacanta u taagan tahay wiilalba waxaan ka wada hadalnay cat callinka marka waxaan ku iri warheedha hablaha waad inay garataan inaysan idinka idiin soo bixin marka wuxuu yidhi niyo waxaan leeyahay mid saaxiibkayo hadduu gabar arkaba wuxuu samaynayaa gabadha wuu la hadlayaa kadibna waxaan ku iri niyo maxaad gabdhaha ula hadashaayo u daandaansataa marka wuxuu yidhi oo hadday gurigii ku noqoto iyadoon lala hadlin miyay dareemaysaa importancegeeda iyo gabarnimadeeda you see so heerkaasay bahashu maraysaa macnihii looba arko gabadhii soo baxda haddaan lala hadlin inaysan gabarba ahayn xabso abaayo anmood iska dheh su-aashaadana kusoo dhawow nawaal waa mahadsantahay codkayga ma la maqlayaa haa sharafey maasha allah dhammaantiin waan idin salaamayaa nawaal ugu horeyso baraarugo dhan aada uga mahadcelinaya ifraax udgoon sidoo kaleeto fursaddan aana siisay iyo maaragta waayo aragnimada nala wadaagtay waa kaaga mahadcelinayaa marka hore su-aal intaana keensanin waxaa isdhihi lahaa hal faalo ku darso
oo ah dumarkeena in hadda maaragtay faduushaas oo kale marka laga hadlo ay ugu horeeyaan waxaan dhihi karaa annaga u hubana marka horeeto oo yacni markuu nin adoo jidka maraya iska kaa faduuliyo ina ayadii aysan yac iska dhihi karin oo maaragtay iyada xataa rabin ama hadday rabto laakiin ay iskala hadli karin taas hadhow dareensiinaysa ayagii qofti inay maaragtay rabto in la faduuliyo ama yacni excitement ku tahay marka dumarkeen ina iska dhisno dhinacaas maaragtay kalsoonidoo kaleeto ifraax marka hal waxaa rabaa inaan weydiiyo oo ah mawduucan oo qaybta waxbarashada hadda ka hadlayno oo iyada muhiim ah qaybta waxbarashada dumar badan higher educationka kuma jiraan maxaa yacni fariino u reebi lahayd ama kula talin lahayd inay maaragtay sameeyaan dumarka tusaale maalin dhowtaan waxaa akrinaya buugaagta soomaaliga ku qoran marka inta badan marka akhrinayo dadka loo mahad celiyo oo ka qayb qaata buuggan inuu maaragtay soo baxo oo maaragtay uu qormo dadka aragtiyaha ka dhiibtay tafaftirada ku sameeya kulli waxay u wada badan yihiin rag su-aal isweydiiyo waxaan dhahay ilaa hadda ma arag buug gabar ku jirto aan dhahay oo loogu mahad celinayo qaybtaas ilaa qoraaga faamilkiisa maahane xaaskiisa wuxuu leeyahay waxay i siisay space aan ku qoro hooyada iyo gabdhahaygas intaas uun adi qoyskiisa ah gabar ka baxsan oo aqoonteedii ugu deeqday buuggaas uu ku soo baxay ilaa hadda ma arag yacni taasoo kale maxay kula tahay dumarkana maxaa fariinahoo maaragta aana leedahay oo dhinaca higher educationka ana waxaa ka mid ah dadka waxbarashada xiiseeya markay dumarka noqoto oo aada u daneeya marka inaan ilaa heerkaas gaarno caqabadaha kala jirkeena oo naga hortaagan dartood anaga maxaa talaahona siin lahayd maadaama anaga waaya aragsan tahay intaasaa kaga bixi lahaa waa mahadsan tahay حسب أبا ما سنتهاي for سؤال maxaa kind of advice aan ku siin lahaa nanka waxbarashada أنا waxaan aaminsana waxbarashada run ahaantii inay tahay iftiin aad baan u aaminsana aqoon la'aan inay tahay iftiin la'aan waxbarashada kaliya lama aha inaad heer adiga astaan adiga bulshadaada mise shaqo aad ku raadayso kaliya ma aha laakiin also inay tahay si aad adduunka u fahantid maskaxdaada ku xoroobaysa xataa dhanka waxbarashada markaad wax badan kala fahansan tahay qof critical thinking oo iskeed u fakari kartaa markaad tahay waxaad dareemaysaa inaad qof xor ah inaad tahay marka dhanka kalena waxbarashada way ku fiican tahay bulshada inaad wax ka qaban kartid marka waxaan ku advice garayn lahaa run ahaantii inaad dadaalka la sii wado waxaan ku advice garayn lahaa haweenka adiga already maybe waxbarashadooda gaaray already maybe certain positions of society ku jiro inay caawiyaan gabdhaha hadda soo baxayo waxbarashada aad u daneynayo inay maxaa la yiraahdaa aan la create gareeyo like funds hadday tahay dhaqaale xumo inay waxbarashada hor taagan tahay inay tahay lack of mentorship in la mentor gareeyo taas booskaas in la buuxiyo marka waa shaqada laba meelood ay inay laba meelood kaliya meelo badan laakiin at least qofka wax baranaya ee dadka support gareynaya at least inay isla qabtaan way adagta markaad kaligaa wax qabanaysid run ahaantii jirkaada iyo maskaxdaada everything bay maxaa la yiraahdaa ku adagta maxaad laga yaabo inuu qofka maleeyo xataa maba suubin kara waxaa never mind laakiin marka hawsha la isla qabto xoogaa way fududaanaysaa marka aad waxaan u dhiirigelinayaa wax baro oo sii soco laakiin dadka kalena xataa dhegeysanaya haweenka heerka gaaray oo maybe jaamacadaha dhameeyey adigana gadaashaa fiiri oo dadkaad caawin kara gabdhaha tomorrow future-ka ah ayagana caawi haddadan maanta qofka waxbarasho maybe funds u baahan haddaad awooddo ku sadaqaysay waqtigaada iyo waxaad taqaanid iyo lacagtaada xataa because we know money is a difference maker waxyaalo qaarkood waxbarashada hor taagan waxaaba ugu weynbo lacagta the other thing wallahi ma ignore garayn karno bulshada siday u dhaysan tahay waan ognahay bulshada maxaa la yiraahdaa sidaan in badan u sheegnay saameyn weyn inay nolosha qofka bani'aadanka ay ku leedahay marka bulshada xataa inay in yar isku bedesho oo more la arko women in different positions in society so that it's normalized inay normal tahay haweenka in badan inaan qaban karno haddaa opportunity-ga haysano run ahaantii waan kasoo baxnaa waan qabanaa waxaa waaye marka hore waxaanu hor taagan opportunity la'aan wadadaana laga xiraya albaabahana laga xiraya laakiin mar haddaan albaabka soo galno we show up and we show out like aad baan u dadaalnaa
waxa waan qaban karnaa hawsha kalena xabsa waxaan rabaa inaan wax yar ka taabta abaayo markaad tiri haweenka jac nimanka iskama dhahayaan abaay bulsho markaad ku nooshahay adiga male dominated ah oo violence maxaa la yiraahdaa haweenka lagu suubiyo different types of violence ay ahaato verbal violence public place-ka naloo diidan yahay way adag tahay waxaan rabaa gurigeyga markaan ka baxo runaantii guriga inaan nabad kusoo laabto laga yaabaa haddaa meeshaan aan joogo xataa xoogaa amni yar aan ka dareemayo nin handuu ila hadla inaan ignore gareeyaa ka horeyso intaan yac iska dhihin because waxaa iiga imaan karta dhibaato kale marka bulshada ma ignore garan karto waxay ku dhisan tahay sharciga jiro iyo maxaa la yiraahdaa siday haweenka iyo ragga like loo kala sareeyo nin haddaa jac ku dhahdo waxaa laga yaabaa inuu ku dilo balaayada hadhowna adiga lagu eedo la maxay oola hadashay right waana ka xuma inay arrimaha sidaas tahay laakiin waxaan rabaa inaan maxaa la yiraahdaa xoogaa aan ka taabto u cudur daaro haweenka qaarkood oo la hadlin aniga wallahi qaarkood lama hadlin haddaa li fududee waa iska ignore gareeya waa wadadayaan ka socdaa because ujeedadayda waxaa gurigayga inaan nabad ku imaado ma rabin nin wareersan oo male entitlement dareemayo inuu maalinkaas ciilkiisa iyo wixiisa maxaa la yiraahdaa igu qaato I don't want that you know waxaan dareemi karaana markaasna meel maybe amni badan ay ka jireen inay xaaladaba kasii xunta habo right so that's the reason mar qaarkood haweenka ay yaca u dhihin aan hoostaan ugu gubanayna kaliya absolutely ifraaxaada u mahadsan tahay waxaana dhihi karnaa gabdhaha ruuxadooda in adeerayaal haraasmentiga macaa waxaa ka mid ah qofkii waa qurux badan tahay waa shidan tahay waa bartay ka bilaabato aada u mahadsantihiin idil ahaantiinba participantska ku jira zoomka iyo barta facebook live-ka waxaan jeclahay inaan soo qabto agaasimaha guud ee Baraarug Library xasan mudane waxaan rabnaa soo xiritaankaagii iyo faaladaadii Nawal waa mahadsan tahay horta intaan soo xirin ka hor waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheeko yaroo na dhex martay arday aan u dhigay maadada sociology marka macallin jaamacadeed ahay waxaan xasuustaa waxaan maraa chapter social institutionska ka sheekeynaa marka qaybta waxbarashada soo gaaray marka qaybta waxbarashada soo gaaraa waxaa weydiiyay ardayda sababta loo waayay qof dumar ah oo jaamacadaha madax ka masalan jaamacadan joogaan ka bilaabay ilaa wadanka gudihiisa waan soo tiriyey wax macnaha qof dumar ah oo rector ama yani madaxweynaha jaamacadeeda ma jiro marka waan ka doodana sababta loo waayay maxay tahay because jaamacadii dhan waxaa madax ka ah rag meelaha ugu soo sarreeya oo marka xitaa madaxtinimada laga soo tago meelaha ugu sarreeya oo xafiisyada ugu sarreeya inta badan ragga jooga marka gabdhihii iyo jaamacadaha marka la fiirin waa bilcagsi jaamacadaha marka la fiirina waxaa ku badan dumarka ku badan gabdhiha ku badan marka dooda series asa sheeran aan fasalka ka doodnay laakiin yani meelo badan ay ka fiireen ardada markaan discuss gareynayn arrintaas laakiin waxay isku biyo shubatay inay tahay waxaan wax dib ugu laabanayo familka macnaha sida loo soo barbaariyay مثلا family markaa fiirisid xagga inta badan dominant gabdhaha marka leadershipka marka la baraayo wiilka asaga meesha wuxuu ka yahay kabiir gabadhana waxay tahay qofka labaad ku xiga gabadha markaas guri marka fiirisid waxay arkaysaa odaygii ama aabihii oo meesha madax ka ah oo inta badan arrimaha ugu badan keligiis misal go'aan gaarayo wax kastana asaga looga dambeynayo maamadan inay tahay keliya jikada marka that kind of wax la yiraahdo environmentgaas ku soo qortay markay jaamacadda timada ama institutionkii waxbarashada markay timaadana way markay arko yani macnaha waa wax familka dib ugu laa marka daas waa problem hadda marka la fiiriyo xitaa mawduuceena waa ifraax ay nala wadaagaysana su-aashaasay ku dul wareeganaysa yani education institutionska waayo dumarka ugu yara marka waa wax u baahan in aad looga hadlo hal muxaadaro kaliya kuma filna lagu celiyo marka mushkilo jirta waaye waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimada ifraax udgoon runtii wax badan aan kaa faa'iidaysanay wax badanna waa kororsanay sidoo kale wasiiradda anise xaaji muumin waa ku salaam wasiir faalladaadii iyo su-aalaha ka jawaabaysa wax badan aan ka faa'iidaysanay wax badan aan kororsan caawo si fiicanna waa u sheekaysanay su-aalo macquul ah oo aad u fiicanna waa la isweydiiyey marka waqtigiina qaaliga wax loo dhiga mana runtii waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalayaasha saaxiibo badan waxaan u jeedaa
maxamed barre saaxiibkay aan ujeedaa mar kasta baraaruga ku xiraya marka runtii aad idinka mahadcelinaa ka qaybgalaas warsame shiidle isagana wuxuu ka mid ah saaxiibada weliba xitaa product library workshop ee qabataa barnaamijyada qabata waxaa ka mid ah tababaray bixisaa tababarka ugu dambeeya warsame asaa bixinaya sida novelada ama sheekafanaadka loo qoro marka warsame waa mahadsan tahay sidoo kale saaxiibada kale ee ka qaybgalayaasha magacyadiina ma wada sheegi kara laakiin guud ahaan waqtigiina waa fahansanahay in muddo 2 saac aad nala joogtaan oo aad waqtina siisaan oo aad dhegaystaan marka guud ahaan waa mahadsantihiin lecturekeeni caawa halkaasaan kusoo gabagabeynaynaa Nawaal adigaan dib kugu soo celiyay xasan mudane aada u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa cashirka macalimadda bixisay iyo dhammaan ka qaybgalayaasha faallooyinka ay bixiyeen inay ku keenayaan gabar walba oo aan aniga ugu horeeyo inay meesha ka xayxaydato una orodo boosishanada ugu sarreeya ee waxbarashada marka waxaan leeyahay hawl kala madaalooyin weli waa hogaday ifraax aada u mahadsan tahay wasiirad qof walba shakhsi kasta waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay waqtigaaga intaas bayna inaan ku egtahay barnaamijkii caawa